راديو كلمية 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 kulanti waxaan dhageystayaal idilkiiba meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka qaladaadka wariyaasha oo sanadkiiba mar xilliga sanad guurada aad ka dhageysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho 9 sanad guuro wanaagsan waan idin leenahay waa barnaamij sanadlaah waa 9 Febraayo waa kan ku soo wada maxaan dhaar waa barnaamijkii sanadlaha 9 Febraayo saacadahan oo karanaad maqla jirtaan sirab badan oo wariyaasha u qarsoonaana la kashifi jiray waa barnaamij aanu ku soo bandhigno qaladaadka wariyaasha ka dhaca inta ay ku guda jiraan duubista barnaamijyada wararka iyo waliba si live marka ay u tabinayaan intaba waa maray soo taarto waa subaani arka joog dad badan laakiin maanta ugu yaraan 9 tagi doon laakiin hal qalad la igama dheerada idaacadan heeka joog waayahay yaan ku bilawnaa horta barnaamijkii jeedinaya Umar waa bal iska yaqaan dheerada marada Maryan Umar leeyahay waa tahay Cabdullaahi Maxamed Cali marka hore waxaan leenahay 9 sano guuro wanaagsan Cabdullaahi soo dhawo isagaan ku bilaabeena waa duqownaa 9 sano joognaa waa idin jeeda aniga isku facmanahine aniga 2 sano la joogay waliba haaf ay ka sii dhiman tahay marka hore sanad guuro wanaagsan 9 sano guuradii idaacada kulmiye u dabaaldegaysan dhageystayaasha idinka idin la wadaagaya marka waan dhawahay inkastoo barnaamijkan aan mudneen oo u malaysid in lagu soo qaldayba waa run la waxa tahay ninka ugu daada yar ugu maskiinsan شيخ إذاعة شيخ يلا دليل ولا بدين شيخ عمر بوا جوجاه عمره ما دام إسقى شيخ إذاعة ما دام إسقى شيخ إذاعة يا إسقى أودار البرامج كيلو دافر وذا تقولي قد بقول لو فرج الصباح أنا أيضا القرآن ما آخرنا معنا خلاص اللي جماعة ما هي ما خلاص من لقاها ولا أجيها ما خلاص من لقاها لكن كيف بدنا لقاها دافر القرآن كله را دافر القرآن ما كيف لقاها كيف خلاص لقى ما هاي صاص متى أدياد عبد الله طبعا كيف بوري لبكو سجالي طبعا إلا يسدد فبوري لبكو يلبعتن كم ما يسوقتان وسنة قلت كادين أرتا ما دام سنة جوري لبعض إيتها إذا عد أو سنة كورة عن كل عصباي خلادنا اللي جسوا بندقي ماشي أنا جوجل ازدفاعين ما أنت أرتا حنو بعدين ازدفاع مركا قلاد وديع كران هرت بني آدم استقلد وقليا لكن طبعا كيف عندنا يرى لكن محكمة صرافة طبعا كيف اللي صار فرتوا أوفا لكن لو بدي قدام بس maybe أنا سأعيش كده ديفتوا لقيا لكن ويعكوري لك واسمعني أرت برنامجات أنت بدنا وحيد بدين توست تبينه مثلا وحاجر هذا برنامج الله دوبه كلامته سيدا برنامج كيجو كلام مرتين ما ولا كلامته واسكت دوبين قرارات كيسا كاس لوقان كشتا لوق وحالي اللي يركب بإنتاسوا هذيك لكن توس ميكروفون كفرية توس اللي هو دقيسنا labadii sano yani sanadkii hadda sidii bari ku sheegtay 2019 Febraayo ilaa 9 Febraayo 8 Febraayo 2020 wax qalad oo ka dhaca inta aan kawanka lagu saarin ma xasuusataa laga yaabay halko inaad soo qabataan laakiin waxa aan ku dhigi karaa hadda qaladaadkaas waaweyn aan galma jirto faray taagan haye عبد الغني askar saaxiibkay uu isdifaacay laakiin maanta waxaan ku bashaaraynayaa booski tuurir horta idin salaamay meesha ka maqan oo naga yara mashquulay marka sanadkii hore waxa waay tuuriran kaalinta isku haynay marka isaga inuu aad iga horeeyo aan ugu sii bashaaraynaya waa kaalintii alwaxa la isku haystaa horta tuurir waa salaamila nin wuxuu ahaa in adeega ka batay sanad walba asaa qaadanayay waxaan jeclaa marka farsamayaqaaniintuna wax ka xaasinimo badan male ma ku sheegayaan qaladka hore ka qabanayaan waa shaqaysteen Soomaa farsamayaqaanka Shariif ay nan maqashibal isla magaalada kale ee New York ee dalkaasi Mareykanka hadii aan eegnane sidoo kale waxa ka dhacday toogasho loo adeegsaday toorey suuqa kale hello maxaa loo adeegsaday Cabdullaah أنا توقش له شيء محلو هذيك سمحوا ما مقلني عارف فرصة يقالوا وعلي isla magaalada kale ee New York ee dalkaasi Mareykanka hadii aan eegnane sidoo kale waxa ka dhacday toogasho loo adeegsaday toorey wali ma la maqlin toorey oo toogasho loo adeegsaday Umar laakiin la tooro ma laga yaabo toogasho ma noqon kartaa yiri toorey hay toogasho ma la joogo meeshaas hadda maxay kulat
توش توريلو أديك سنة براي noo faahfaahe شريف هرت برامج كفرسمان أيوة قلت كان سوق قبتي قلت كوب بدن أنت بدن أساس سوق قبته برامج كبريسمو هاي هالك ساعة سوق قالوا دريمي برامج كاس وحلي هرن ويا هاي قلت كوب بدن أساس سوق قبته أنت بدن مركا وحنكبح هاي إسلام رايكم قارت توجشين بدن أكدعو تكسس إن هذا جعل هاي توجش كده عليه قاري له أديك سدي ضد كل إنتهان شاقي مركا نيويورك سيدو كلا يدنا وسيفيري إن ضد كل إنتهان فهميها marka intaan si aad qodob kale aan soo baxsanay waxa iska sii qiyaas idan inay toogasho kadib baa ay soo baxda markay inay toori tahay waa ka laabtay marka weer loo isii tooriyanda marka inta dhexe asaa sheegay Shariif meesho geeyay macna mi qalad ka sino ka dhacay ma qarsata adiga laakiin taas waa qarsanaha maxaa keen horta inta badan inay qaladaad ka dhacaan qaladaadka inta badan horta markuu qofka oo toos ku jiro waxa dhacayso markuu wax sheego inuu meel kale ka sii fikiraayo isagoo meesha kale ku sii maqan inuu ku daba daro marka tii horna uusan ka soo dhamaanin tii kalena uusan wali gaarin marka dhaxdii ku kabaamay Cabdullaahi aadan ku fahmnay waxaan jeclahay sanadka dambe inaysan noqon toogasho loo adeegsado dhagax hadda toddobaadka waxay noqotay toorey hay mari mislada Cabdullaahi Maxamed Cali qaladkan ma isleedahay kaliya laga soo qabto mise qaladaad kala tuumaysa in laga haayo qaladkaas waa iska jeclaan la iska fasax maadaama hal asi qiyaasay hal la qiyaasay wax kale ma jiraan iska fasax jeclaan sheekeeyo dhimir saadaalna waa jirtay oo Cabdiqani ugu haystaa saadaala jirtay ugu haystaa oo qalab badan yahay wadahay ma ninkan kaalin turina siiyay baa way Cabdiqani maadaama soo barto uu qaato uu rabo kaalinta wax ka bedelo marka anigu ma noqon doono u baahan yahay marka anigu ma noqon doono laakiin waa gadaal dambe waa ka arki doonaa wax bedelo والله horta muji cusub la helo waa beel waa soo dhaweynaa tuuriyare ee ninka leeyahay Cabdiqani ayaa sanad walba ku tartami jiray sanadkan inuu qof kala soo baxo ama adiga sanad kale la joogo in kasto mayna horta warqabadka laftigooda khaladaadkooda in qol la geliyo laakiin wala soo qabana reporterada laftigooda waa la kala waxaan jecelahay Cabdullaahi intuu samiiska ka kacin farsamayqan marka la balina wax maqashiiso madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa waxa uu sheegay in uu kala laabtay ciidamada dalkaasi Mareykanka كلمان لايف قال كلمان لايف كلمان لايف إيزق Cabdiqani maxuu layf qala كلمان لايف قال إنك sababta u sir maxay tahay وقتها كلامنا waxay tahay barnaamij fanni ah oo dadka waxyaabaha aan macquul ahayn mararka qaar leesu bay in xaaf dawladda Mareykanka oo ciidamada kala laabto marka kalamaan tuula ciidan galmudug goor Mareykanka ka tagaan ciidan galmudug goor Mareykanka ka tagaan wallahi maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada dalka oo ciidamo kala soo laabtay Mareykanka waa sheekado fiican horta Cumar maxay ku dhacday horta Cumar oo kar ila soo qabra ma bileyneen laakiin qaladka horta waa la socdaa waxa qabatay Iqra Axmed Maxamuud oo farsamayaqaanada ka tirsan marka oo Iqra waxaan is lahaa wiilasha waa ka beerjil canta waa gabaray ilaa كم بعد ساقط برجل عمية إذا شريف يعني ساق قدر نفهمين مركا غلط كان هرتو حكون عايز كم وما دعين أو عد اسكو غلط كرت مجرد مدحوين حاف إذا ماذا مرايكن مركا حافنا ومعلومي أو خلاف كواد وتاجنا قلمدوك وسو سارة يليس كحلوان هذا إيو جديد أنا مركا أمر مركو حكومة بحية إن أنت كوش قدر له ما ملكيسة قال كعي مادان مركا qodobada waa aragtay ogaal 5 saac qodobada rogaal celiska dhageysayaasha inta badan ay maqlaan marka 5 saac markay ku dhacday qodobadana computerka igu jireen computerkan la soo baxay waxa taqaanaa markii oo website-ka la galo live stream-ka doosan codka ka xirneen oo soo qaylinaa iyadoo li soo daayay iyo qodob koowaad si galay iyo codkii oo soo qayliyay marka laba mid ah door biday ina ikhra dhaho iqro microphone-ka iga xiraa waxaan iska habeeyo ina codka bis computerka iska xiro marka waxa door baxan sida computerka fudud computerka hadana waaba sii waayay codkii meesha ku jira sii waay inta soo xasay dhageysayaashu ku dhageysanayna si hadal marka iyadoo waxa ogaay madaxweyne xaafan ka sheekeynay waa ka soo gudbay xasan xaafis kaga tag qodobka labaad oo Mareykanka ayaa soo qabsaday marka labadooda sidaas ugu qabtay hatta ma fahmin kadib markii barnaamijka la jarjaray aan dhageystay aan arkaba xaafo oo hanjabay ciidamada Mareykanka oo la suno loo maruway inta Mareykanka gaaday ay caras ay oo tagacad taagis muxuu ka wada anu qaatay markaas in ciidamada tababar xaq ay ka yimideen galmudug loo soo tababaray marka ciidamadu kala soo horto waxa way hadalka marba dhinac kula aadaa
لا وإذا كده إيران ومرينا لابد يكون حاسوستانو ده عيد ماذا بدأ إيران ما بدله إيران الربع موت هذه مركا عادة ولا كذا كذا وحنو مرينا ولي برنامج كي أيام نكون قد جرنا عبد الله لا بقلت أو في عنا اللقاء هلي مثل حد وحنو مرينا إن هذا قلنا صح ما يسوي وقتها وقتها ما أنا وقتها بالبران سيب البران وحسوا هذا من راوحين وريكا ما يورتي هذا أرت أذى تقول ودم بس لكن كل شريف قاعد تاجويا وحنا يستوي حاسس أنا شريف هاي شريف fayraska aan la aqoonin ee ka dilaacay shiinaha dunida meelo badan oo ka tirsan ku sii faafaya waxa la sheegayaa in laga qaado cunista dooliga iyo shiinaha shiinaha waxa la cunanayaa ورشيني دولي ما أنا بسكيت يلا قدك تبيها شينا ما دام دولي إن ديريها شينا إن ديريهن اسمه كده عمر خلاص كويس ترى يا جودي بل أردت أردا كهالله لقيها بدك خارن سدان شينا على عنا مكتب برامج كله كوهاي برامج ديري بالت قبيس برامج كسكب بدلا بركة inta badan waxa cudurkan coronavirus oo aragtay oo shiinaha ka dilaacay dunida meel badan dhibaato ku haya marka waxa la soo qoraya waxyaabaha dadka ay iska ilaaliyaan ee mudantaasi aan cudurkan looga qaadin marka shiinaha kibiliga iyo dooliga iyo masaska aad looga cunaa waxa uu leeyahay cunista xayawaanadan waxyaabo qayb ka tahay waxyaabaha sababa in oo cudurkan ama fayraskan coronavirus la qaado marka warbixintii aan akhrinayay saan u soo marka shiinaha waxa uu soo sheekeynayay kadib markii dambe dooliga iyo shiinaha aan siidaahay waana ka sii laabtay markii dambe masaskan ku bedelay ma aqaan un shariif waxay dhexdooda kala bixi jiray kamid tahay ما ما له shiinaha hadda soo qaadato waxa uu arkay in afkooda adag moogtaa shin haan illa masaska la cunaa ay marin maxay ku shariif intuu rawooba ka helay Soomaali qaladkiisa oo jartay muraadkiisana wuu gaaray horta asxaan lagu sameeyo ha sugin farsamo yaqaaniinta marka Cabdullaahi waa fasaxeena ugu adag yahay mugtahay shariif ku amaana hariya farsamo yaqaaniinta kale farsamo yaqaaniinta kale horta madiina ay aad u maasay laakiin shariif waxa waaye xil gooni oo sanadka oo dhan iska saara in qaladka hadda maanta ma soo sagaal bisha maanta laga bilaabo biri waa bilaabo yaa hawshiisa laakiin buraano warkadoodiya ku dhacay tawaay kadoodi adii maamulka tiin shaqada ugu mahad celinaysa laakiin anaga caqabada ku qabnaa way Cabdullaahi adoo ku fasaxayna marka aad iyo aad ma san balaaliga dabkii balaaliga هذا ما تاعي كبدل الواحد وقاعدين إن شاء الله ولي هالكاسات نقدر جسنا سنة وراديو كلمية برنامج كنا وبرنامج كي صوب بندقيس تقلادات كورية وبرنامج سنة الله وساعدها نوكرة وسجل كفى برايو شمس أي هرفة لسه كوان كيسارنتها الله نموت شمس سودو waad maasanta Umar adiga iyo Maryama iyo asxaabta kale reer kulmiye iyo maxaan ku raadin dhageystayaasheena waxaan leeyahay sanad guur wanaagsan waxaan maqlay jiray muusiga iyo codka ay dilay codka guuxa aad ay dilay gabadha ugu taageerayaasha badan waa gabadha ugu taageerayaasha badan waa aniga naftayga waa taageera adiguna tolo sacbiyano saakana hurda la soo kiciyay saasoo codka u weyn hadda soo kacmana haddaba soo kacday oo 9 Febraayo oo si weyn loo dabaaldegay hadda soo kacday haddaba soo kacay waxa xala ma dhafartay xala xoga chat ba ku dhafadaa ma heesi xala heesi idaacada xala qaadaysa idaacada heesida ya qaadil hadaan ugu qaaday waa runta saasoo ku maqnaa ay shamso runtii waxa kamid tahay wariyaasha radio kulmiye adoo magacay badan shamsana waa lagu dhahaa shamsana waa lagu dhahaa horta labada magac sax kan hooyada igu wacdan jecelahay xitaa hooyada abi marka qaar isku khilaafo abay shamsi dhaa hooyada shams way tiraada marka dadkuna waa saas oo kale lamid laakiin kan hooyada igu wacdan jecelahay shams anna kan abaha kugu wacan jecelahay shamso magac saddexaad jira adiga ma qofkii keen isaga la soo weydiiyay abdu qani hay inta ka kanta warkaas adiga jaabkaaga waa ma iskuulka weydii magac loo yeeray ma kala ma waxaan ka rabaa sanadka ka waxaan u malaynayaa horta shariif waa iska joogaa maalin walba soo taagan yahay xataa kadoodiyada ku dhaca dhex taagan yahay qalad uu raadinaa qalad intaas wax uu raadinayaa marka ayaamahan wax prank la raadina soo baxay aduu rabo iska sameeysan aduu rabo jeebkiisa way hasha
waxaan jecelahay Shariif laftigiisa in prank oo jira la yiraahdo mugti isaga samaysanaya la yiri Shariif laftigiisa la rabaa inuu ka jawaabo hay Shariif ma jeebka ka samaystay waa ma santahay Umar oo adiga Maryan oo barnaamijka kula waday asxaabta kale horta waa hadal iska mustaxiil ah marka sababtoo ah hadii aan samayso codka shamis ma yeeli kari yani codka shamis ma yeeli kari marka waxaa la heli karaa codkeeda baa la hayaa marka barnaamijkii marka isdifaac meeshaas inuu ka galo waxa wax kale waa hay waa maasata horta taas waa laga soo celiyay waa laga soo tuuray iska raasa jaalisa kale maray maxay kula shamis meeqa qaladaad isleedahay waa laga hayaa sanadkan ani prank le waan taagana wali il adka maba aaminsanid been qalad uu ka dhacay ma hafashay intaad shaqeynayso ma hafashay mararka qaar way dhacay laakiin khalad iga dhacay Shariif isaga jeebkiisa kareyn Umar oo intaan barnaamijkii man ka hor shabees waxay ka cabsanaysaa kubadda loo xaqaadato ma ogtahay xabsa waa qofka ugu dhow shamis oo saaxiibada yihiin sida ka shafanta marka burhaan wuxuu leeyahay shamis inay qirato qaladkeeda ha sugnine bal Shariif macnaha ha ku dhawaaqo qalad hay Shariif kooway koow Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maalmahan ku sugnaa qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo oo uu booqasho ku joogay Xudur iyo Baydhabo hal mar igu celiyo dad badan aan fahmeen dad badan oo dhageystayaal laga yaabo inaysan fahmin hal loogu celiyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maalmahan ku sugnaa qaybo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo oo uu booqasho ku joogay يا قبل صدحات كاري بحرب هرت هل شيء إنا نفهمه حضر يا بايدابو وباي يا بكول حضر وبكول بايدابنا وباي adigana waxaad keentay Shabeellada Hoose bal inta aan warkaaga fahmin oo adigu ma fasirin waxaan jeclahay Shariif sheekay hay sheekay waa ma santahay Umar horta subaxdii ay qaladkan galeysay waxaan dhahay maxaa ula jeeday Ra'iisul Wasaaraha booqanayo meel ka mid ah Shabeellada Hoose haddana Xudur Baydhabo inaan noo sheegto maxaa ka wada markaasi ma ogyeey dhaad waxaan sheegay dhan adle ka maqlay هاي سودو شمس waa ma santahay Umar oo khaladkaas wuxuu ahaa warka saacadu ku baxay waan xustaa maalin jimci ahayd isaga gambarka qayay iga deen waa markaas aanu isku buuqay gambarka iga dhamaan waa dhalalo soo socda saacadu waa la gaaray isaga ay waala marka jeebkiisa way isaga keensaday gambarka isu hal mar isu waxaan rabaa hal su'aal inaan weydiiyo shamsay difaac aan oo shubka dhagaxa dhiganaysid aan waxay horta ka tusaa saacadu waa waajib ka saaran waa farsamayaqaankii ilaa dhageystayaashu waqti u bateen xilliga saacada la joogaa gambaleelka qolkaaga aad wax ku diyaarsanayso oo kuugu soo dhacay soo bax saacadaadi waa la joogaa waad baxday waa tagtay adiga sida see u dhahay wixii aan aniga sheegay ma bogo isaga hal weydiisan noo dhahay yani markuu gambaleelka iga deyn kari waayay oo yani marka jimcada waxa weeye waxa ka sii horeeyay warka saacada xogaa hordha waxa jira oo xiriirin waxdaas marka maya ma la gaarin isaga wuxuu jecel yahay in studio hore loogu sii joogo marka haddii qaylada markuu gambaleelka iga deeyo anoo isku boqsay isaga inaan maagaan rabay maagidiisii horta waxa iga soo dhacay ilaatka sheegay horta gambaleelkaas waxa la yiriyaa saacada qofka waqtiga tusaale ahaan markuu warka saacada 12 ku soo galaa ama 6 saacadood hormay waa 3 daqiiqo ka hor waa sax qofkii inuu fadhiyo meesha inuu fadhiyo meesha marka si digniina loogu sheegaa 3 daqiiqo 4 daqiiqo ka hor in 4 daqiiqo 3 daqiiqo ay ku dhimanta marka 3 daqiiqo 4 daqiiqo marka bilaash nervous oo noqoto shamis maahay waa ku tala gashay kada bal isu isdifaac hada zaa'ida marin hay maxaa dhahay shamis sheekay ka mas'uuliyad laakiin qalad kale lagu haya shamis misleeda qalad labaad macna Shariif uu joogaa baan mar walba iska joogaa ilaadka Shariif biisa ayba mid kale guud ahaan warkii subax oo aad kala socoteen dhageystayaal idaacada kulmiye waa naga intaas cidii uu sheego radio kulmiye.net ay dib uga heli karaan nabadgelyo warkaale sug dada hadda wali fahmin dhageystayaasha ugu daran horta waxaan rabaa mugtaa dhageystayaasha wax badan aan u iftiimino waxaan jecelahay bal mar kale dhageystayaasha inta aan faahfaahinta gelin inaan mar kale hawada u saarno guud ahaan warkii subax oo aad kala socoteen dhageystayaal idaacada kulmiye waa naga intaas cidii uu sheego radio kulmiye.net ay dib uga heli karaan nabadgelyo
ما قمت ما بكالك شمس نفسك warkaas wax buu ahaa waa sidaad u jeedo waxaan ka codsanay ilaa adeegana jooji ay miski baad waayahay waxaa sheeg waxaa waayahay taas waxaan dhigi karaa waa hafasho maxaa ku hafata marka يعني ده هذا هو يجوي مركه هذا الكيك هو جوي نوفا فاهم ما فاهمه هذا سأيو شاء واحد فريس ما دحين عدي وسيجا يضرب عدي وسيجا عدي وشجع هذا سيجا مركه في بارو تحتاج هاي عرس صدو ماشي الشعب اللي قرب الساعة كدك منها هذه كتوتك بس هذه قدرت معنى كلا يا طبعا عمرو شمس ولي waxay ku siin dhacdaynaysaa ma la soo taagan tahay isaga fiirinay ilaa hadda sheekay ida kaga dhagan tahay maanta وي فيري فرو تحتاج سو gabagabay bulaha شمس qaladaad kale misleeyahay waa haya qaladaad kale misleeyahay malaha waxaa laga yaabaa qaladaadka dal soo wada inta yaqaaniinta kale ee ka soo qabteen hadii iyaga ay noqdaan ama iqrin ay ka soo qabatay ama Cabdirasaaq iyagana ma sheekay lamadiin macnaa ayaga ku fiirinaayeen markii hore markii aad ii soo yeerisay soo jiidaysay waxa la deeray haduu sheekay maqan yahay ku diixita ku dhaw markii wasla isagii way wartan ma laga yaabo inay ku tiraado habad ka sugay wara loo sheegay ay qaladka saddexaad sheekayo iyadoo laga cabsi qabo inay da'aan dabaylo culus ما dad badan aan hadda fahmin aniga waan fahmay dad badan oo dhageystayaasha aan fahmin wariyaashana la fadhiya qaarkood aan fahmin maxaa dhacay mise waxba dhacay bal horta markale aan dhageysano iyadoo laga cabsi qabo inay da'aan dabaylo culus maxaa laga cabsi qabaa dabaylo dhacay laga cabsi qabaa miya inay dhacayaan see u rabtaa wuxuu ahaa warka subax buu ahaa agaysan burhaan bay akhrinayay marka maxaan ku radaa waxa laga hadlayay Puntland bay ahayd oo yaanti laga cabsi qabin duufaan wax dhacaan marka dabayliya marka dhacaya dabaylo waxaan rabaa inaan iraahdo in roobab da'ay iyo dabaylo wax saas oo kale marka waxay noqotay dabayshu baa badaaday badee war ilma ay reeyalo kaalaya war adiga kaale dabayl si u da'aysa dabayl ma roob baa mise waa biyo taasna khaladkeeda farsamayaqaynta ma iska leh agaasima iska leh ورمل دي وقت تقوينها تعالى هي فرحان هي كاله وحن جعلها بلدي وبرغ ان شمس يو اغاسمها مرسو على اصلاح خيارته محمى لكن فرسمي قانينتا اي خراداتك ايدا كدعو دن ساريسay hada agaasimaha u gudubtay hadda ma laga yaabaa inaad laftiga ku timaado wala laga yaabaa mar hada agaasimaha ay subaxgiis anina galabgiis wala laga yaabaa nin daad qaaday xunbuuska waaya qaladka afraadan jacala markana maanta oo kale sanadkii 1943 ciidamadii Japan ayaa ku duulay dalka New Delhi oo kamid ahaa dalalka Ingiriis ku haystay دي واتو انت كدولك ما فهمن بها ugu celi farsama yaqaan maanta oo kale sanadkii 1943 ciidamadii Japan ayaa ku duulay dalka New Delhi oo kamid ahaa dalalka Ingiriis ku haystay New Delhi oo kamid ah magaalooyinka wadanka India shimay dal noqotay shamsay taasna waa agasi burhaan wali isaga ay soo qoran ma soo qorin ana gacan ka taagay yaa la nawin ma soo qorin qoraalkaasna waa haya yaraan xaydin uu soo xitaa ii sheego isaga iga tirtiray maanta ii sheegay adeegay qaado shamis waraa waxaan maqli jiray kubadda dahabka kubadda qalinka kubadda maarta alwaaxa il adeegay tan qaaday hada afar milyan Abdullah xabay dheerat Abdullah saddex milyan ma ba u dhamaatay ma inaa saas ma ku dhamaano anigu markii hore abana imseen khalad la keenay waxba iga moolin tan muduqyada laga saaray ay farsamayqaan maanta oo kale sanadkii 1943 madaxweynaha xilligaasi ee dalka Mareykanka Frankari إلهي تنخرج عليك العداوة وقرأت. يا ما قدرنا يا. الله سبحانه الله سبحانه.
لحنكيسة وطوا قلب لحنكيسة وطوا سي ودي فرانكلين بس فالتال عن كارت maxay tir marka فرانكلين ما قدر يستعرض عمرو حتى waxaa jirtay tan inay khalad tahay xitaa waxaad ku garan kartaa ilaahay baan bari xitaa yani shariifa si dhameystiran mar hal marka noogu celi maanta oo kale sanadkii 1943 madaxweynihii xilligaasi ee dalka Mareykanka Frankari إلهي وارنتين إلهي فريش إلهي يوتك ما برين لكن إلهي يولك إلهي غلب كان ويقالة الشمس غلب كان وقالة تمام كان واقعتها وما سنتها وين دماتي بلا وين دماتها فرسميقان كفرت أنت هذا لا هذا haatanna wararka shabeellada hoose al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka qalimow ee gobolka shabeellada dhexe wariyaheenna bashiir cali daahir ayaa inoo faahfaahinaya bal marka ma dhageystayaasha laga yaabaa inay fahmaan anigu waa fahmay farsamada waxa laga yaabaa inaysan fahmin dhageystayaasha marka la ugu celino haatanna wararka shabeellada hoose al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka qalimow ee gobolka shabeellada dhexe wariyaheenna bashiir cali daahir ayaa inoo faahfaahinaya shabeellada hoose noo rarta marka hore waxaan ka sugaynaa afgooya marka shalaanbood meelahaas ka sugaynaa number 50 maxayna geysay qalimow shabeellada dhexe waa run laakiin intee geysay marka hore وعادي دمر بعد كده جاي تسوي اسكي قادنا ما قادنا تنتي ورقات ودو برته يعني كنا حبس عليك هلا لا سفني ما قادنا يا برنامج ولا عليك كده بس يا لي واتو فرحان وسنتغي هي een halka mid ay waadkaysanayso waxay tahay dirsiin labada goob ha meesha waadkaysan meesha waadkaysan kala shabeelooyinkana way jecesha qaladaadkeeda shabeelooyinka u badnaa shamis een waa sax sida ay sheegtay Maryama ee shabeelooyinka hadii aan hoos dhex ka dhigo waa iska cad xudhibaato kuma shubnaasin shamis kan dhibaatada haysta ay soo baxdaan juqraafiga gobolada xoogaa marka kulub koonfurta marka loo fiirsho dhibaya dhibow ma ahanba waxaan maqli jiray il adka tan labada indhood buu adag yihiin in kaloo noqdano een ina qatmada iga soo socmarow bulac ma cunta adoo ka shaki maya jiir baan cunay shiiray ka timid laakiin Umar shamis way naga qoslisay wax badan ay naga qoslisay qaladaadkeedana aad u badnaay marka sanad dhan 6 ilaa 5 qalad ama 7 hadii laga helo xataa waa iska caadi waa qof sanad dhan shaqeynaayo marka waa in loogu cudur daaraa intay naga qoslisaa wax la siistaleen aada hadan ka yeelan la maahano hadan ka yeelan la maahano wala khawta ma la khaway ana ma la khaway ay waxaan jeclahay markayna farsameeyaqaankeena u baaqo waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb ka dhacaysa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee maamulka Galmudug waxaana maanta u tartamaya xilalkaasi ilaa 4 musharax ammaanka magaalada Kismaayo ayaa saaka aad loo adkeeyay maxaa fahanteen shams maxaa fahanteen een sidaan Dhuusamareeb ugu dhex jiraan Kismaayo bedeshay maxaa ka doontaa Kismaayo waa wareegda isku dhiga wareegay meerisan jiray madad يا عمرو هذا الشباب هذا الشباب هذا الحب بدرسة عادي هذا لو سمرنا كي ما دوك اسماعيلك محد يده اسلم مريسي هنا أنا قوي دالة برهان أنا قوي دالة ساعة عمرو شمس ملاها دلهيسي يدو إذا عد الجوك يقولوا دلهيس ورونا دلهيس كسولو بهيا dhiwaato caadi waa la iska sanaa jale waxaan ka rabaa Dhuusamareeb baa joogta oo galgaduud oo xaruntii gobolka galgaduud ah waliba Kismaayo inaad macna kalluun ma ku qabto macna malaaga ma jeceshay inaan horta waa runta Cumar kalluunka aad baan u jecelahay haddana wixii hadii lagu dhex jiro xogaa in laga yarnasto soo maahan waa soo wareegay baan kalluunka ma jeceshay mas malaaga ma kalluunka jeceshay kalluunka jecelahay malaaga may adag malaaga isku cuni malaaga waxa laga qaadaa ma taqaanaa xabeeb waa laga qaadaa oo qof dhunta waa xirmaysa maxaan ku raasay sidoo kale lafay leedahay laakiin kalluunka isku bixis waay sax hal mar la dijinaya adan marka waliga kalluunka ku googa malaaga iga tabaya saasa ka raba waxa marka kubadda looxan maqli jiray iyo ad waxa ku siinaa ya ma waa maqli jiraan kuri tii il adeeg iyo tii dhig adeegan ku siinayna waxa soo dhidi ka wata waxaan qaataan inaan tan gobolada inaan isku khaldeen soo kala wareejiyo waan qaadanayo xitaa dalmarnimada idinku diideen waan qaatay ama haasata iga horka wax ka ilaa waligeeba maaran
cumarow markaan waxaan soo dhaweynaynaa wakiil wareedka idaacadda kulmiye ee sanadkan uu nala dabaaldegaya xarunta wakiil wareedka waxaan u fahmay wariyaha uga soo warrama gobolka Hiiraan idaacadda Ismaan Aadan Carays dad badan aan fahmin muddo intaas loo sheegay xarunta wadani oo partner la akhriyo aad partner maxaan ka wada laagtay qaybka bahwadaag macnaha waxaa lagu xasuustaa barnaamijyada tartan aqooneedka oo kale oo degmooyinka oo kale habeenkii waa ka baxay Ismaan Aadan Carays wuxuu leeyahay maadaama wariyaasha kale gobolada ay maqan yihiin oo aniga xarunta aan joogo booskooda anaa buuxinayo waaw soo dhawo Carays intaadan soo dhawaan Carays qoona ma noo keento ما يقونا واسوي سيدي أنكر صوب عرفتهم قادم واجر أنا سنة كان قونا أو حبنا لي ما أنت ويا مريم قونا متقنا ذي وحلا ما نوعي هذا معناه ما يقونا متقنا قونا ما يفرق بلا بلا ما تجينا ده تجي هي هاي تتكسر وقوة سيرين هاي قون أنا قانو هاي أنت كبحلا ده كبحلا معي ده نوع كبحلا نوع جيت كي كبحلا واحد حالا ده جيت كي كبحلا أنا ورت مالك كبحلا ما قال بدي قون ما رقصنا ومريها هالحرالة هي أنا فيلم لكم مغلق قون إنك عنو سوي كده وأنت عمل وارتا وحلا حنا يا معنا والله حنا عمر وأنا أقول ماشي كبحلا حد أنا وعوني كرا وين إيسوق هالحرالة ما شغالة وطالع أنت ماشي جوك هاي سوسعو وحال اللي كربا قوندا القاب رواي وكتر وحال ربا مركه جيدك اي كبخدا مغعيس اوبا الله ما هيس بار وينو يا بار بار اللي هذا لكن مثل قوندا كبخدا بارك وصح لكن انت نوع وكلا بخدا مر انا واكو كلا قانا انا واكو كلا جيبالا كميده تمالا كميده نوعاس يا ديقانتو عمرو agaasimaha ilaaha ku toosiyay hay soo dhawaad ninka عمر آدي هذا ما سنتاي هذيك هي قاسمها هي مريم هي دمان شغالها ورباينتها كلمية بودك شغالها ورباينتها ودينا فيها من قلادة بلدوينة وراح فيليا نورتمانتو وهذا وفر عسل أنا كسوق قبل سنة تقول ذي وقلات كوريش لكن أنا قبل كسوق الله خلت كيا بس كيربا محايلة ورقرن لهم سدروها مقطع سبحان بالربابة على تسلفتي كده بهذا اللي بيجي ورقرنا بصدر تاب ورقر سير الله صدر ما بل دغيسنا ما ورقرنا صدر معنا وادوبا صدروها معنا waxaan ka rabaa hadda inaan fahamsiiso warqorana soo diraatir warka qoran lama dhageystay waa la akhristaa idaacadana waa laga dhageystaa warka qoran ma idaacada laga dhageystaa waxaan ka wada macnaha ujeedka fil sentence waxa loo isticmaalaa shay sentence ugu jira sentence ugu jira qaadaday waa gashay hadda gashay balar waxa ka doonay laakiin qalad inuu jiraan ku sheegaan xasan horta waxaan ka rabaa burhan hal shay aan isla fahamno horta hadda qalad ma garanaysa ma waa gali qaladka uu kala sheeg waxa waay war qoran soo diraa yiri warka qoran waa la akhriyaa lama dhageysto annagana waxa aan sii deynaa waa codkaaga ma hadaan rabo inaan qoraal soo diro duraan inta ka akhrina waxa ka akhrina maxaa macna inta ka akhrina soo dirtaa waxaan annaga sii deynaa waa codka waxaan dhahnaa Caraysa warkaan soo diray dhageystayaashuna dhagtooday ku qaataan adigan xataa waxa taagantaa war qoraalan soo diray see war qoraal annaga u deynaa waa qaatay ka socdo شكلنا محمد علي وكفى يستوي حدود دق قراراتي وقرار لو قال هاي إلا هذا لك wax qarada ma ma qalad ma bidii karayso farsama yaqaan iyadoo labadii habeen ugu dambeysay ay dhaceen weerar madaafiic ay dagaalamayaasha al-shabaab ku soo qaadeen okay waxaan jecelahay dhageystayaasha iska daaya hatta aniga aan fahmin cidda weerarka lagu qaaday waa ay bal hal markaan aan dhageysano iyadoo labadii habeen ugu dambeysay ay dhaceen weerar madaafiic ay dagaalamayaasha al-shabaab ku soo qaadeen labarin baa iga baxday xogaa walwal yar saaxiibkay uu qabay casiir ku jirta iyo warkii uu isaga tabinayay oo isaga dhan iska tabiyay warkaas waxaan filayaa meesha sentence ka maqan meesha waxa laga dhax jaray meesha maana sentence meesha ka maqan qabku soo xirmaa warka ninkii warka qabtaa jooga maxamed ama santa Umar horta warkaan subax sabtii heedana ka qabta Carays idaacad kama bixin idaacada warkaan wuxuu ahaa ciidamada Djibouti oo fariisin ku leh gudaha degmada Beledweyne ayaa al-shabaab ku soo qaaran weerar madaafiic marka Carays background-kii wuxuu ku yiri habeenada ugu dambeeyay background mar wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen background waxa la wada macnaa warkan ka soo xiray gabagabada Carays marka wuxuu yiri iyadoo maalin ugu dambeeyay tiro hoobiyaal al-shabaab ku soo qaadayeen macnaa ku soo qaadayeen ka Beledweyne igu soo qaadayeen marka dhaasay asaas ku soo aadi marka waa war yar oo aan idaacadii ka bixin laakiin Carays ka qirsax waa dhahday
كل ما يا لكن أنا أقول أذكر لك إنك وقول سوق قاعدة سنة وده ما بلغ ولا وقول سوق قاعدة ولي بوكرة حسد سك سك ولي ما هذا فاهمني waxaan jeclaa farsamayaqaanka mar saddexaad inuu hawada u saaro iyadoo labadii habeen ugu dambeysay ay dhaceen weeraro madaafiic ay dagaalamayaasha al-shabaab ugu soo qaadeen yaa lagu soo qaaday warkaas hoose u dhikaas عمره ولي السكر سوني له باقي واي هذا ما ستعرس او سلامنا halkaas qosan beri waxaan aad ugu faraxsanahay marka in hal sano hal qalad bas liga helo waxay khibrad iyo macnaha experience aan u leeyahay saxaafadda ee tilmaamay markaas maadaama sanad liga ma ninka lagu gaar male way arageena waa macalinkeena waa aris laakiin isleeyahay asaga wixiisa wax soo duuban waaye barnaamijyada idaacadda dhan haddii la duubi lahaa yaaba qalad geli lahaa cumrow carays hadduu warkii leef u akhrin lahaa ama inta joogi lahaa boqol qalad baa laga qabanaya laakiin wuxuu ilaahay ku mahadinaya inuu warka soo duubo oo soo jirjiro isaga gacantiisa weliba isagoo soo duuba hal qalad laga sii yeelay hadda radio wadani qaladaad badan ku gala waa الله يا بار الله يا بار barnaamijka horta sida aad loogu xiisay magaalada Beledweyne Mugtaa habeen wuxuu baaqanayaa in barnaamijka uu soo galay waxa aad loogu qoslaa dadka aad u hadlayeen maalintii isku furanka rag iyo dumarka sanadkii hore taas waa ka soo gudbay way aad baad u maasantiin waxaan jeclaa waqtigana waa inahayaa markana inaan ka gudbo saaxiibkay Careys waxaan jeclaa markana Farxaan ay hor yimid Farxaan soo dhawow waa in salaamadi iyo Faadumo waxaan rabaa waxaan maqli jiray hadal hilmaan kuma jiro laakiin tan hilmaan wax la yiraahdo ma jiraan be Faadumo yaa waay maya Faadumo yaa waay maya waxaan isku dhaxyaa waxay tahay inaan qalad liga haynin hadda ba galu saaxiibo laakiin waxaan ka rabaa Faadumo salaamina meel kasto inaga dhageysanayso sax haday dhageystayaasha kamid tahay aad iyo aadaan u leenahay soo dhawow Faadumo maadaama Maryan oo ma ka bilaabata faal lagu qalday waa qalad oo dhici kara ku fogaan hay ku fogaanay Faadumo dhanbaal salaanaad hawada u mariso Soomaaliya Faadumo jacaylkani waa fidbaahayo ku fidaya beeraha intaas mu dhaafay laakiin waxaan ka rabaa sanadkan 2020 Febraayo 9keeda miiskaad saaran tahay 10kii oo Febraayo 2019 iyo 8 Febraayo 2020 maxaa isbedelay horta sanadkii hore qalada laga qabtay laakiin sanadkan dadaal badan aan bixi wax badan aan juhud badan ku bixi marka uma maleynaa in qaladaad maanta laga hayo waa nin isku kalsoon dadaalka bixisaan ka dhaxarki doonaaye maya waxaan jecelahay il adeeg iyo dhag adeeg iyo af adeeg waa soo aragnaa moofta carab adeeg hadda loo jooga carab adeeg dadaalan bixiyo bal dadaalka bixisa sheekay ha bixiyaasna u sugay ay maanta ciidamo booliis ah geysay degmada Luuq ee gobolkaasi ilaa 3 diyaaro ciidamo booliis ayaa la geeyay halkaasi ilaa 3 diyaaro aye oo booliis awli 3 diyaaro oo booliis awli anigu ma fahmin dhageystayaasha bal inay fahmeen in kala aan weydiiyo ay maanta ciidamo booliis ah geysay degmada Luuq ee gobolkaasi ilaa 3 diyaaro ciidamo booliis ayaa la geeyay halkaasi ilaa 3 diyaaro diyaarad oo ciidamo booliis ay saariin diyaarad ma dhow saabe diyaaro hatta 3 diyaaradood waa maya 3 diyaaro oo diyaaro horta ma jirtaba hal haday tahay xitaa diyaaro ma la dhigo جمع اسكبت تاس عربك لابتوب مان يا هوي عرب هذيك انت اسك دافتي قاده قلد كاي يا halka hal qalad leeyma ho horta ma qaadata ma halkaas qalad waa qaatay ما halka qalad bisan ku ayna ku dheh waa iska ka fasaxayna laakiin shariif diidan shariifdi waxa uu isku soo farsameystay oo banaanka isku soo qaatay abu halkaas ka aqlima waa ka xiray borka shariif shamis walaalkeed hay wadada u dhaxaysa Muqdisho wadadii waa istaagtay ilaa haddana ma socotaa la yiri وده بيستاهل مسبيا هاي مش فهمت شو هو سؤال شوف هم انا ماشي wax badan ka jaray ma ka jirin hadii wixii laga jaray anaga waxaan rabnaa qaladka meesha uu ka jiro ana waxaan dhahay wadadii dhismaheeda istaagay ma dhiinayay arna waxaan jeclaa bar kale ina farsan beeqan igu celiso ninkan ila adeeg inta iska dhaafo carab adeeg isku bedelay wadada u dhaxaysa Muqdisho wadadii waa istaagtay ilaa haddana ma socotaa la yiri hay wadadii waa istaagtay ilaa haddana ma socotaa la yiri hay
tusaale meesha waxaan rabaa inaan ku daro suluugu qaba ninkaan mogtahay jumladda haddii la dhihi lahaa dhismaha wadada macnaha meesha ma ku jirto wadada waa istaagtay uu yiri ninkaan mogtahay ilaa haddana ma socoto u dhooya marka dhisma ma ku jiro meesha maya wadadii oo dhismaheedu uu socday istaagtay waxaan jecelahay hal arrin qalbigaaga waxaa ku jirta inaad tiraahdo dhismaha carabkaaga laakiin waa kuu deeday intaasoo galo shariif intaasuu gaadaya soomaa marka sanadkii oo dhan haddii 2 qalad aan galay intaasay u filan soomaa 2 qalad haddaa gashay okay waa loo qalay inta ay soo qabteen ma loo qalaynayo runtuu sheegay hadda dadaalkiisu ku bixi 2 qalad waa maasantahay farxan waa maasantahay waa tahay cumar oo markaan dhanka iyo hablahan u weycanaynaa xafsa qaliif cumaraan soo dhaweynaynaa xafsa ama waxaan ku dhahan taqaanaaday haddaad aragta xafsa taleefonkay ku mashquulsanta ma waray ka diyaarinaysaa ma barnaamijya ka diyaarinaysaa ma idaacaday ka duubaysaa ma garan karo laakiin waa u heesta dee jacayl ma ku mashquulsantahay waa tahay xafsa soo dhawo sanad guuri wanaagsan mari muxudiin iyo cumar teejir barnaamijka soo jeedinay saaxiibada idaacadda iyo stuudiga cumar yare iyo maryan yare dhano intee ku jirtaa cumar yare cumar dheere yes intaas oo rabnaa dhammaan saaxiibada stuudiga gursadan waxaan leeyahay sanad guuri wanaagsan aan ku leenahay xafso soo dhawow xafso 10 February 2019 ilaa 8 February 2020 ma isleedahay sanadkaas inta aad shaqeynaysay qaladaad ama hafashooyin aad gashay xilliga wararka ama barnaamijyada aad tabinaysay waa isleeyahay qaladaad waa gashay waxaan isleeyahay kala qaladaad laga soo qabtay iyo kuwa baxsaday intaba way jiraan oo aad xasuusan tahay ma jiraan oo aan la soo qaban ma aad xasuusan tahay in la soo qabto suuragal oo farsamada uu keedka uu ku jiro sheekeeye laakiin aad qalad aad xasuusanto kugu taagan Allah ilaahay qaladkaas marbaad idaacadda ka gashay marna qalad aan kala wax xasuustaa laakiin marka farsameeyaqaanku uu yiraahdo waxba uma hayo ama waa intaas ku yihiin ma sheegi doonaa inaan hordhac maro ayo qaladka aan u saarna marka ayo farsameeyaqaan ma aan way gaadno xaqii ay socota maleeyahay warka qariir ku socda maleeyahay oo ay gaad barnaamijka galab wanaagsan ayaan radaa heeskan ما فهمت وليد هذا فهمي وافهمي قلب مركي الجري برامج قلبنا صناعة مركي خلط كان الجري أنيقا شريف برهان ضد بدنا نحمر قفك عرت العتيق عادين آذو قابي marka warka akhrinayo xogaa laga yaabaa in asxoojiyo xitaa marka qaadinka galabna akhrinayo ma aqaan sibuu codkaygu u dilan yahay sir marka runta loo hadlo laakiin codkaaga ma sha Allah cod gaabanahay macnaha laakiin codkaaga kala dhageysigiisa ma sha Allah inuu saxmeyn anigu waan ogahay yes waliba waxa kamid tahay wariyaashan sida gaarka u taageero ay waxweyn ay tahay haddii waa lagu noqon karaa codka waxaa hoos ka leeyahay waa adiga asaga markuu xuleeyahay wixii daafur hadi waxaas mogtahay tiisaan marka laga jalaq ma siin waa adiga ayaa la yiraahdaa heeskan waan hees akhriyay qaadilay haddana waa cadaaladu waa lama huraan waxaan jecelnahay waxay codsatay in loo shida marka loo dhageystayaashay wada dhageystaan aan u daaro ma aan way gaadno xaqii ay socota maleeyahay warka qariir ku socda maleeyahay oo ay gaad barnaamijka galab wanaagsan ayaan radaa heeskan ايش فيري adigu isagu wuxuu ku yiri barnaamijku waa barnaamijkii galab wanaagsan ayaa la yiraahdaa heestan waxay u eg tahay marka ma way u eg tahay sax way u eg tahay waa la suureysan karaa laakiin maalinkii intii aan ku doodan ku taaganahay waa codka waa adiga ayaa la yiraahdaa heestan wuxuu dhameystir yahay jumlada aan soo bilowday waana jumladeeda dhameystir jumlada hore laga tagaa dhooysa ha way maxaa laga tagaa waa kan waan dhahayaa buu tal fiiri waxaa jira sanadkii hore inaan u ballan qaaday dhageystayaasha qaladaadka iyo dhahyada ka baxa radio kulmiye ay dhageystaan qaladaadka aan ka galna laftigiisa hadda miiska maanta waxaa saaran waa aniga iyo Maryan Cabdulle macnuhu markii loo fiirsado qaabka wax u baxayaan waxaa la dhihi karaa midba meel laga keenay laakiin lagama keenin adiga fiiri fallaar waxa liiri gilgilisha kaaga ma waa gilgilna le ma ahane warfaa tam yeelay sababde waa adiga hees akhriiri qaadal laha waa adiga barnaamijkan dafur wahayd barnaamijka dhameystirna waa dhageysan kartaa dhageystayaashina waa loogu soo xiray barnaamijka galab wanaagsan adiga la yiraahdo ma dhahay heestana ayaga soo dhaxgal ana markaan ha watay ayaga soo dhaxgal Umarow
xafso ayada waxay kaga dhigtay heesta magaceedu waa adiga laakiin burhaan wuxuu leeyahay barnaamijka galab wanaagsan ayada marka waa adigii kor keentay macnaha waxay taagan tahay aniga hadlaay muxuu iga soo dhaxgalay waxaan jecelahay dhageystayaasha mar kale inaan u iftiimino inaanu codkaaga meesha isku jirin inaan hadda la maqashina iftiimi codkan dheere waxaan jecelahay garsuurayaasha inaan dadweynaha ka dhigno marka ugu dambeeyaan jecelahay inaan hawada mar kala saarno barnaamijka galab wanaagsan ayaan radaa heeskan burhaan meeshaas waxaa ka soo laabtay khaladkan sida loo malaynayo maaha cadaaladdu waa shay muhiima gabadha marka intaadan barnaamijka dhina waxay tiri waa adigaa soo galay ayaa la yiraahdaa heeskanay tiri halkeeday ka wadatay kuma soo laabanin heesta aan markan soo qabanay burhaano waxa la yiraahdaa waa adiga ma aysan dhihin laakiin waa adiga inta jiraad ka dhax gashay kadib ayaa heeskan la yiraahdaa tiri barnaamijka ku daba qabat aan ku sheego Umar Saas Bahaba heesta oo dhamaatay barta barnaamijka heesta furtaan oo way dhamaatay siiqada barnaamijka waxa waaye marka heesta ay dhamaato hadii xogaa kaftan uu ka soo baxo inuu kaftamo kadibna qof wuxuu yiraahdaa heesta saas waaye ama barnaamijkana galab wanaagsan ay daafur noqotaa marka waa aamusaxata xabsada maqlis mugta shib etri barnaamijkeena galab wanaagsan ay mugta ayaa la yiraahdaa heesta ay qabtaa la soo waay marka dood waqtiga inahayo dood intaasaan ku dhaafno waxaan jeclahay dhageystayaasha aan u daynba studio waa laga buuxaa war khalad ma u qornaa maxaan ku raahdaa xabso bas waa ka diidaa maya isuga fadlan isuga inta ogol maya isuga inta ogol in xabso khalad loo qoro gacanta taagto انت عن اوغولينا غانتا تاك حبسو خلاص ملحه حبسو خلاص ملحه يا taageerayaal badan madax ku darsanaa qaladaad kuwan ka mudan ani aan galaa jiro laakiin la soo qaadan waan ku faraxsanaa boqolkiiba oo qarsan ba hadda maadaama aan la soo bandhigin hal mar ma nooga sheeg kartaa hal xabo waxaa jiray caasimada wadankiisa ay ku darmo aha caasimada wadanka maalinka aan soo saacada Burkina Faso وقدوق ما خلنا وحنوش يا ولي قد وحنا ما خلي وما خان سعون وكرفت إلهي وحبي بحي فرسمة وحكون جرتي أخر ما مصداق ما خان سيس أدري من انقلب قلي وصافة كذا أنت عمدا قاسم ما يقص حاجة قاسم ودي وقرن واي يلا فرسمة رن مو نقول نسي عن لي أركن مركي لما مع العمل كسوي ريت حاجة خلت كاس قلي ما شاء الله هذا وما صنت غلط كاجا برك غلط كاسة تصاعيلا هذا وما صنت ولي قبور ودر هذه ما كروي زادي ما قمر ما بكر ولي بقى إذا تصل يقول لك سنة مني برا هذا بركز إجوت ما كره ولي هالكسر نقول صوتان وريديو كل مية برنامج كانوا برنامج كي سنة الله ها فالشضع أما قلادات ككذا على راديو كل مية مدة السنة وده حيسا سجال كفبراير إلا سجال كفبراير سنة والبا وسجال كفبراير إلا سجال كفبراير هذا نسيف أنسيو هذا واحد نشوفنا سجال كفبراير لبده كوني لباتنكا وحن سكو إيمان دونا دي الله ودل الناس نفط النو باقي النو قديقو سجال كفبراير كوي لباتنكا هذا حيار فليه محمد علي وكمدا رسول سيارياش راديو كلمية أهنا ملاحة برنامج هذا راديو كلمية ورما قلت ما هو اسكو حاجة أوكي هو أنا قلت الموضة أهنا مقدرة ما قاعد كرر أبو مقدرة كده أهنا أنا كداني إنه أنا روح مقدرة لا أنا هالمرة هاي شمس أهنا تفتر كحية كده عاد كل احنا كحاجه تفترك عنك الراديو كل اوكي احنا هيا نينك هو عاد عاد اوه احنا ويلك وقعد اذا عدا كده يود مكاسه كده يود أهنا ويلك قليلها إذا عدا أهنا ويلك وضع عدا وناكسن بس هلكا أكو أكاتو هلكا أكو أكاتو وحنك ماركتك سو كمان شغالين أنا مريم أنت كمان شغالين خيط ماركتك إذا قبل سنة ما عادي اللي بيبيعي واي وحنكربا شو دور وما سنت عمر هذه مريم سنة جرو وناكسن طبعا وسنة كل بعض أنا جيت هاي وبرنامج كان في خيب قليو حفلة يا كل تورت صحاب بدن ماشي ما كل عيبوين أنا إنه إلهي وحاب لي رام جرام ما لا بحد يسكت جوا توصلنا ما هذا وحاول هاي ضل لقى قبضة تضرب ماشي نجوي هو هذا دمي صوص عدان وهذا هل هذه لقى قبضة هذه بقول لقى قبضة واسكو ماشي ما وكل قروح بدني هشة نينك هلك لقى هيو يعني نينك لقى هاي تدوس مان
maxamed cali oo inta ku soo hor fadhiisto garta qaato oo baxa erki barnaamijka dhinta ku jooga waliba waxa nala jooga stuudiyaha wariyaal aan qaladaadkooda macnaha la soo bandhigi doono barnaamijka qayb ka ahayn macnaheeduna ma ahayn in barnaamij sanadkaas inaysan qalad gelin laakiin farsamo yaqaaniintu ma haleelin ama ma helin qaladaadkooda marka maxamed cali hadii todoba wariyaal laga qabto macnihiisa ma wariyaas inuu wariyaa ugu qaladaadka badan idaacadu yahay isagaan laga yaabaa marka hadda ka shimid todoba wariyaal laga qabto macnaha todoba qalad laga qabto macnaha todoba qalad ha marka hadda shamiso kala ayada hogaaminaysa hadana kalsooniyo u fadhidaa maxamed inay si jilbaha gacmaha la isku gashtaa qatarabo ma nafaay meel fiican fadhisa ma ka taqaan markii la qaadanayo koobka alwaax maaragtay inaan qaadansan ma horta ninka alwaax qaadanayo inaan qaadansan ma marka suuqin kala saara waxaan ka rabaa qalad waa dhacaa waa sax qof bini aadam ah oo aan hafanayn ama qalad ka dhacaynin ma jiro waa sax waxaan ku faraxsanahay ninka la Cabdiqani oo sanad walba qaadan jiray asii ninka la tuuriyada ku tirtama jiray haddana Cabdiqani wiligiis ma arkin asoo isdifaacayo sax waay loo taagay asii sax le waay adiga marka il adeeg waxaan soo maray il adeeg dag adeeg af adeeg عرب أذيك هذا أور أذيك أنا قدام وجهك ما وجهك هي واي مركب عمر ورتني وفيلا ينطق خلاص قليل لكن من بدنه هل إلا ما كبدنه خلاص كان قراني نورت هل يلا ما قرسنتها هل لو هذه يسيب هل انقرسنها وحكى نورت هل ما قرسنتها يا هل ما قرسنها هل هذا قرسنتها بقولك كلنا ما قرسنتها فرصة ما يغان قف لابو السحيو قضب رشيو خلاوالك الرعن waayahay danjira caalin ayuu kaasi ahaa weli waxaad dhegaysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye ee muqdisho haye astaanta aad maqasheen maxay caan ku tahay xog waraysi muxuu isaguna sheegay falanqaynta si dhegeystayaasha ay u fahmaan mar kale aan hawada u saaro قف لابو السحيو قضب رشيو خلاوالك الرعن waayahay danjira caalin ayuu kaasi ahaa weli waxaad dhegaysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye ee muqdisho ay maxaa maqashay waa barnaamijka falanqaynta alle barnaamijka xog waraysi sababtan waxay ahayd badanaa wax u badnaa sababta iska dhaaf horta waa qalad sababtu waxay tahay waxaan u badnaa badanaa barnaamijkan la yiraahdo falanqaynta xog waraysi habeenkaas waxaan filayn ahayd habeen ramadaan la dareemaya xataa xogaa waa isku keenay inkastoo horta la keenay muusiska wax isku raadisay laakiin ma ka maqnaa studio horta sidoo ka maqnaa طبعا حسيت مركا قلت كان قال استوديو سو غلاي برهان ديني انا تليفون فيرني ان كشيغي waxaa barnaamijka falanqayn marka ay burhaan gacantii tahay falanqaynta tiriyo kadib aan kala waxaa barnaamijka xog waraysi dhageysanaysan marka intii la jaray waan qala iska easy waa yiri marka boqolkii waa hal waadi macallin dugsi ma ajirta saasa u dheysantay ama gacanta inta mataqaana oo kale dadku marka ay dhageysan tusaale astaamaha barnaamijka astaana dhamaad moota kaas wuxuu ahaa danjira caalin Allah hadra ka astaanta ma danjira caalin marka idin sheega maya stuudiyahan ka maqnaa rooba sheegay stuudiyahan ka maqnaa marka waraysi uu ka dagay ba astaanta gashay waa maqnaa idaacada kale waa muusaysa ya hada waan ku qasbanahay inaad dadkii ninkii oo codkiisa baxay maxaba ay haduu yiraahdo halkaan nagala socotaana waa radio kulmiye barnaamijkuna waa barnaamijka xog waraysi waxaana dhawaan dhageysateen ama codkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa halka tagay ay farxan horta laba qaladood idin muuqdo wuxuu yiri studio waa ka maqnaa kaasna wuxuu ahaa danjire cali marka soo maqan oo dijimo waxa farxana warka la soo saaray macnuu studio ka maqnaa haddana wuxuu yiri markaan imid ma dhihin wuxuu yiri studio ka maqnaa waxaan iri yiri asoo studio ka maqan uu sheegay haddana inuu kaas caalina waa qalad kalaba darbi wuxuu garaacay iska daaya ana cumaro maxaan ku radaa barnaamijka labada barnaamij horta isku xilli ma baxaan habeenii maalin bay kale marka adaa dadka su'aalaha weydiin jiray maxamed cali waxaad ii weydiisaa habeenka waxa ka baaqday isugu dhex qalday habeenkii maalinta astaanta xog waraysi iyo falanqaynta la isku qalday madaxweyne axmed ducaale geela xaafo ku hanjabay inuu ciidamada Mareykanka kala soo baxay wali waa cambaareen waxaaba hadda ma shamis su'aasheedan bajeclaadaba maalin cadeeya barnaamijka falanqaynta la qabtaa kana habeenkii la qabtaa oo waliba 3 saace maxaa isu keenay waa ku sheegaya fiir waxa dhacay mararka qaar warka subax iyadoo la akhrinayo iyo warka habeen idaacada sabab maxaa manikan baa warka subax buu akhriyaa mar maahan ashan waxa la jeedaa waxaan badnaan ku barnaamijka falanqaynta qaban jiray u badnaa aniga ramadaanka xog waraysi kuma badneen marka halkaas habeen xog waraysi buuxinay
marka barnaamijka falaqeynta igu soo laabanaya waan halka barnaamijka idaacadan ka qabto marka laga siyaasad ahaan way hadaba aniga barnaamijka aan ka qabto idaacada waa halka barnaamij loo yiraahdo murti ma weelo hadda emaya barnaamij kale ma qabto waa halkaas barnaamij hadii lagu dhigay falaqeynta ay suge barnaamijkaas in badan ku celceliya carabkayga uu la qabsado hadda waxaad moodaaba inuu aad iigu fudud yahay hadda barnaamijkana wada inta aan wadayaa ma yaa maqlay murti ma weelo wala jaraado hadda ya maqlay qaado hay subdalaala yimid عمرو حلقة adiga hadda laga haya haddaad isugtahay maxaa leedahay laba barnaamij laba saac ay bar soo galaa waxa dhacay 3 saac soo galaa habeenkii uu ka hadlay horta dhimala oo 9 Febraayo aad u soo libisatay libiskaaga aan ka dareemaa in qalqal kugu jiro waxa aan sheegaa 3 saac ay bar waxa soo galaahay waa barnaamijka xog wareysi wax kala ma halkaasaan ugu gudbinaa waqti maayno aad oo maasanta qaladka labaad ay aamin ayaa leh taas ay idin duceysay Farxi Xuseen maxaa macalay marka barnaamijka tawqiis waayay warqad meher aroos ayaa gacanteeda ku jirto aroos maxaa qabtay warqadhe roosheega kaliya daadan ma qaadatay waa qaadatay bas laakiin tabiga dhaaf waxa uu yiri markana waxa gacanteeda ku soo dhacay warqad meher aroos iyo meherna laba kaliya meher waa nikaax la isku xaleelayna arooskana waa wiil fiyoore fiiriya waa gabar fiyoore iska abulo irdaha kooy ma kaasa saas kaliya haye qaladka saddexaad ma qaladka saddexaad guud ahaan dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii kalamaan sababtu waxay tahay horta waa qalad dhacay waxaana ku timid waxaan u maleynayaa tahay barnaamijkii ugu horeeyay ee Ramadaan kadib ee falaqeen la bilaabo calashan waxaa ula jeedaa Ramadaanka barnaamijyada caadiga siyaasadda kalamaan marka lagu bilaabo kalamaanta istaagtay calashan kalamaan Ramadaan wajid moogta marka barnaamijkii ugu horeeyo kalmaan lagu bilaabo bacda Ramadaan baan igu soo aaday markii guud ahaan aan iriba Cabdi Safar taagay wuxuu yiri kalmaan ila birtaa markaan kadib waxaan iri guud ahaan markaan barnaamijkii kalmaan laakiin qalad waa qalad jiro waaw wariyaa fiicay maanta waxaan jeclahay Sharif Sheekeye ku fasaxnaa قول غلط كلا كوما هنا ممكن فسحنا مش كده هذا حاجة ممكن ما هذا ما هرمو هذا وانا ما تمانو وفسحنا مانو الله أكبر فدي dhawaan ayaa laba dhinac khilaafkooda waxa haliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegay in ay arintaas ku guuleysteen maanta madaxweynuhu furmayo waxaan jecelahay dad badan oo hadda stuudiyo qaarkood ku jiro in aan fahmin waliba hadda amaala kamid oo idoo qoslaysa maarkooy waxaan jecelahay dhageystayaal badan oo inaysan fahmin inaan mar kale hawada u saarno dhawaan ayaa laba dhinac khilaafkooda waxa haliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegay in ay arintaas ku guuleysteen maanta madaxweynuhu furmayo عمرو مدحوينها ابو محبوسه هذا محمد الاساس ولا مدحوينها وفرما ياس وحكودا ما سيده مدحوينه مشرميا اوكي واي هاي محمد علي مدحوينها قلد وقال والله يا ان لحنا بقى حي فرح وابا قلد وين محمد ديب الامر لحرنبا محكمه ان لا ساري اي محمد ني وركان وحو ليغيا ور aan dhihin sababta waxay ka tahay sug halkaas joog waxaa tiri war aadan dhihin oo kuula eegay اقرا kaale اقرا gacanta taagaysa waa farsamo yaqaaniinta radio kulmiye kamid ah mar horta waa mahadsantiin sanad guro wanaagsan مالك محمد خلط كان وقله فلقينت برنامج فلقينت وها عدك يصير ماشي على عدك أنا ما عدك بقى عدك محمد وها وقال له خلاف كل حيل قال برلمانك مركم أيام دوام حفر دون مدحوينها يوربين ويراد حفرش كده عدا هذا وقال هذا قرط كيس دوام حفر دون مدحوينها أنا كقبل تيوه سمعنا موضوعك هلا يمشي طبعا ما هو موضوع هو الأوجي مدحوينها وحفر ما أنتس labada aqal baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare kulan ay lahaayeen ama kulan guud arniyo farcadayga naga dhaafno ma yakan wallahi ma ana furo ma qul ma haniyo abu suk darbi ka gaarta dar ana furo ma qul ma haniyo waxa sheegaysiin umar iqra u dhahda markay suk waxaan rabaa inaan dhageystayaasha fahamsiiyo codka ay maqlayaan ma shamisa ma maryana ma farxana ma burhana ma dalhala ma ana
farsamo yaqaan maqshibe dhawaan ayaa laba dhinac khilaafkooda waxaa haliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana la sheegay in ay arintaas ku guuleysteen maanta madaxweynuhu furmayo meesha waxba iga jiri kale torta ma saliib ma hadla jaray ma codkan wala suukan ay shariif shakay horta dad waaweyn oo wax wada fahmi karaan nahay moogtahay codka markii oo lahayn inta la jarjaray la sukana sidaas ma ahaanayo marka maxamed cali tan way ka dhacday wax weyn ma ahano maxaa leeyahay nafan jida nafti awada في أنا عدالة تاجنا. ما يواي واقعنا جاي. وحنا سمعي واقع تلا سمعي. سوق قاتنا. قلت كلا لو سوقت. ما في وحنا قلنا حسنا. مرمية محمد هدر تاندو سكريحة قرأت معنا إذا عدوا قبحة برنامج كنا وبت هدو دي دا يموي لكن سمع لك. ما قبل واقع قلاد. واي حتى بواقع ذي هالكسر كاتو وقف سهنا سما. ما وحنا أوجا نصوص عني عبد الغني. مركب واسك فرح سنة ندري عادي. أي فرصة ما يغان. in baaritaan lagu hayo gaariga qaraxay sida uu ku soo gaaray halkan isla markaana taasina jigboontiyada labada maxaa saaxibiga laban kaaya adagana hoyo isku meeraysan bas la meeraysiga deesiyo maxaa haysa adiga aan hal qalad waaya adiga maxaa haysa laba halkan markuu leeyahay madashaasi ma joogo ma isugu adiga maxaa haysa laba hay maxaa haysa farxan aniga waxaan hayaa laba qalad adiga maxaa kula tahay ni horta warka wala soo jaray warka waxa fiiri waxaan ka hadlayaa sentence-kii dhamaanin jumlada ka socoto malakiina meeshan waxa laga soo qaaday kista aan leeyahay halkan soo gaaray halka aan ka hadlayo waxay tahay warka qaybaha dhaxurka imaanayani marka waxaan kari waayo jigboontan kari waayo qaraxan wuxuu ka dhacay meeshan sayidka jigboontan kari waayo waxba waqtigiyan isaga qaadin jigboontigan ka qaadanayna qaladka soo ogashaa qalad ma kari waayo qalad ma ka qatana adiga iladka عمره محمد داي وحولي مركو يري مركو سو فليسناي dad badan qaladaad badan qaateen oo inaan ka fiicnaada laga yaabaa hada wali waa la sii socdaade waliya waaga wada shamisa ka soo baxdo is waaga waxaan wax ku keenaysaa wax ka jiri malaha shamisa cumar hadii aniga loo xileysiiyay waxaan rabaa in halkan laga ilaaliyo maxay xileysiin lahaa nana wala siina aan wax ma bulsiina baad wala laga soo celiyo hal buu jira numberka shamis hal buu jira hal bas hadii mid kale la keeno shan qalad la keento ugu iyo hal mid aslugsana ka saar wakaas واي ايش waxaan jecelahay maxamed cali waqti ay nahay moogtahay maxamed cali wax kale misku tubaysaa ma yaniyo waa intaan hadda waliba muranka qabay laakiin wasala barak maadaama aad tahay madaxii barnaamijyada ahna war soo saareyaasha radio kulmiye ahna wiilka ugu dabeecadda fiican ahna wiilka ugu ahna waa ka dhaafna astaghfirullah ku daritaasna waato marka intaas ay loo joogto aad u maasata waana ku mahadcelinaynaa waana ku ceeb qarinaynaa idinkuna ku mahadsantahay xishinta ismaysan ayo dhawaatay عمره مركان دنك يا hablaha hadana Amaal Yusuf macalina markaa soo fadhiisatay Amaal soo dhaw sanadkii ugu horeeyay kulmiye ku wada qaadanana waa ku faraxsanahay aad u mahadsantahay Maryan Muxiidiin oo ku dhawahay barnaamijka sharafeen inta Amaal inta soo sano isnaqaano wali studio isaguma imaan aad iyo aad maanta ugu horeysa waa shime iska saynay ilaa yaranteen لكن أنا وأيدي كنت أعيرها موقتها مركل اللي فيه. أنا ما جدك يعلج تاني. أنا ما جدك كعلج. هذيك أنا جدك يعلج ما هذي جدك يعلج. شو قارن. عمرك الله نسي أمالي. عمرك الله نسي. آمين. وحنكربا سودو. عمر هذا وما سنتا وكفرح سنة إن ما أنت ميل وذا جوجنو. ما شاء الله. إنه هو حبضن إسكنا قاني هو ذا. runtii aniga maadaama aan dadka ugu dambeeyay kulmiye ku soo biiray wax badan la igama hayaan jeclaa hay mar Amaal hal ila laba saddex ila afar taas warkaas dhan baad u gaarin af adeeg il adeeg arab adeeg fara adeeg dhaga adeeg waa soo marnay maxaan ku magacaabnaa maya waa qirsana hal waxa jirta qalad oo xasuusanahay oo markaan saas idaacada ugu soo biiray ad maalmo aan joogay dabcan si kama wax ku dhacay oo wasiir aan u maleynay inuu Somaliland inuu dawladda federaalka Soomaaliya uu yahay Somaliland uu ahaa horta wax kasta waa kama wax kasta loo galaan bajirin ba barnaamijkan ba waxa fasho waayba horta Umar oo Amaal way fiican tahay hadayba leedahay qaladan xasuustaa waxba iga dhacay dad badan oo maanta rafanaayo baa waa hal xabay sheegaysa laakiin jawaan markiisa ma la soo bixiyaa baalay laga yaabaa ay farsamo yaqaan waa duhurnimo Sabtiga 1 bisha 2 ee January sanada 2020 warka duhurnimo idaacada kulmiye si wada jir anigoo Amaal iyo Burhaan Diini Faarax ayaa u soo jeedinaya
waxaa laga yaabaa farsamayaqaanintu way soo qabteen annana waa fahamnay dadkana dhegaysanaya qaarkoodaan fahmin waxaan jeclaha mar kale inaan dahwada u saarno waa duhurnimo sabtiya 1 bisha 2 ee Janawari sanada 2020 warka duhurnimo idaacada kulmiye si wada jira anigoo Amaal iyo Burhaan Diini Faarax ayaa u soo jeedinaya aada u mahadsantahay Umar sax waaye waxaa jirtay in maalintaas aan warka akhrinay maalmo ka horeysay aan akhrinay maalinta ka horeysay dabcan aan akhrinay waxa lagu jiray January February koow ahayd marka waxa ugu safgaraysnayd inay January ay tahay marka xalad inuu ka dhaco aaminsan wax weyn maalag wafir arasaki sid bararta waxa raba bisha labaad iyo Janaayo labay kaliya January koow ahayd January waxa February koow ahayd January-na way soo dhamaatay hal maalin loo dhaxaysay adeega iyo hadal adeega inta iska dhaaftid waxaan ka rabaa khaladka ma qaadad وقت لكن لكن حتى ده هل مالنا دحيسو انا وركي مادام وركي دور درعد ugu qafilna inay bis lagu January lagu jiro ay waxay noqotay February qoranta in February bisha 2 tahay waxaan kale ka rabaaba hal maalin saacada le waay saacada waay hal maalin saacada waay saacada iska dhaaf daqiiqadaha haday u dhaxayaan daqiiqado hadda matalan caawo kale saacada 6 saac waxa isbedelaya sanadka cusub ee 20ka waxay noqonaysaa 20ka 20 Soomaa hadii 6 saac iyo hal daqiiqo aan ku soo waco ee aan ku dhaho sanadkii 2020 ma qaldanahay sax waa hadda khaladkaaga qaaday maadaama wada warka duhur aan war adiga warka habeen iyo warka galabtii aan loo kala saaray waxaan isdhaayay way amana degdegna ugu jira waaye ogolahay وكان هلكا صعبه هبطا سوما كاس اي جنوري ها بس ميبي ها قلت كلام جراز لا معناها لما خلني امثال غلط جنوري iyo بس اوقتها بس جنوري اكيد كلنا غلط ما والي وديسي طبعا بس ما بلا arkin bay aad baaski qaadanay halkaas oo kulamo kula qaatay saraakiisha iyo ciidamada xoogga dalka Mareykanka iyo kuwa AMISOM sareeyo guuto General Yusuf Odawa raage ayaa wax uu bogaadiyay askarta iyo saraakiisha kumaandooska xoogga dalka الله نبيحي عمل ما فهمت waxaan fahmay inaan General Odawa magaciisa aan miya soo gaabiyay mise magacaan doodo ayada baad shakil ugu jira anagu wada maqlayna waad u maleynaa inaan soo gaabiyani waa soo gaabisay waa ma dhaaray maya General saa fiir waxaan rabaa ma ku joogay ay sameeyaan marka Yusuf Odawa raagay saarnamka soo hormarisay moogtahay warba joogay sameeyaan hadda tiraado teacher waa soo gaabsatay Umar Habeeb Nuurna waa taqaana laakiin hadii magaci Umar Habeeb Nuur aadan u akhrin kama qalad kale hadda u akhriso maashi qalad ma ku jira kasto hada gees ka dhaaf yaa akhay ما ازدفاع 1 minute maadaama dawladda hadda jirta magaceeda igu adkaayeen laakiin waxa waa taas dhibka keenta ma ahane xogaa yar waa maya garbaasi loo nuuxino waxaan isdhahay Mareykanka baa laga yimid yaaway maxaa yaaway magaciisa muxuu ahaa General Odawa Yusuf Raage adiga maxaa dhahday Yusuf Raage General Odawa yaan General Yusuf Odawa Raage وازدمري قاعد خلت كان نو بكتير هاني قرب كان بالليب ما دام قرب جوج اي تahay magacyada Soomaalida dhiba marka my sister askar Allah haaw واي عمل واسك كيف صحينا ماي سيستا وانا مركله خلاص دمنا اذا شغلتنا ها كيف جوين يا تكر يا soo fadhiiso qofka maanta studio laga joog weysa oo qofka soo qalad galo kula daaranaay macnaha maxamed ciiro qabasho fadhiistay dad badan kula daaran doona Cabdiqani ama Cali soo fadhiistay shamis waa fadhida aad iyo aad waqtiga aad uu noogu yeeray Cabdiqani soo dhaw marka hore waxaan feefanayaa inaad waqtiga soo gaabsataan wax walba aad koobataan aan waxaan idinku adkeenayaa ma laha wax walba koobanayna waqti aad noo hay soo koobta ani kulli waxaan aaminsanahay marka hore ma salaam saaxiibkay Tuuriyere booskiisina difaacan diyaar u ah
way aad ma santaa qalabka koowaad aan jecel maadaama aan kuus ka hayno kuus dhanka kalena haddaan dhuusamareeb eegno magaaladaasi waxaa ka soconaya shirka dib u heshiisiinta galmudug iyadoo laga wado in maalmaha soo aadan ay ka dhacdo doorashada madaxweyne ee maamulkaasi Jubbaland oo sidoo kale qabanqaabada laga dareemayo حسبنا الله بسم الله عاموس مركي عاموس دمانتنا عاموس عبد الغني سودو واسداد مقشين فهمتي وانا فرحسن إنك قصدي وغلط داعي وقف كساو كتن وغلط وحلا خلين كلام معهن سيد كده أنا فين شرحه برنامج فيلم كجري عن رجينا إنه ها أوغال marka waxa taagneed laba arrimood oo ku saabsan Jubbaland iyo Galmudug midka hore aan galay wuxuu ahaa Jubbaland Galmudug aan galay computerkii ay gadamay computerkii intaan ku shaqeynaan daaro ilaa waxaan waa iska cilad electronic waan galay marka doorashadii Dhuusamareeb ka dhacaysay Galmudug ayaan ka dhignay mid Jubbaland ah tahay aad waa masan halkaasaan ku dhaafayna waqtigaan nagu yar hay Abdullah hay صحيح عبد الغني ورتداتي بلاغ ريكي ساق فريستي واي شمس هداتي هذا ugu qosasheen markay tiri doorashada ka dhacaysa Kismaayo Dhuusamareeb ka wado ninkan Jubbaland oo soo raro Galmudug ku bedelay mistake muxuu qaata laakiin taas ilaadeega ka badan laakiin ay qari firi annaga kuba qosolno qofka markuu qaladkiisa qaato hay qaladka labaad farsama yaqaan gegida diyaaradaha ee aadan cadde oo wafdiga ay ka soo degayeen ayaa warar soo baxay qaarkood waxay sheegeen in wafdiga uu qayb ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdirasaaq Salaad Xasan isuga waxaan idinka codsanaa waqtiga ayaa aad inoo hayo inaan ka faa'iidaysano waar Cabdi Qani soo dhawo waa fashatan waa iska saaran waa qaldi kara dib ay saxan aan misanayn magacaada mar wasaxay ba qaladkiisna waa qirtay okay qaladkiisna waa qirtay laakiin farsamada waxa uu jira Cabdirasaaq لا تخرت هو قرته هذا مرة قفت قرته ضوضة ما كي ما كرته ما كرته ضوض هاي فرسمة ما فسحنا أبو ودي waxaa la soo warinayaa in xalay ay gantaalada meelaha fog lala beegsado ku dhaceen aaga magaalada Ciraaq ee dalkaasi واي horta waxaa kow lagu soo galaa heesan mooda qaabka uu heesa hadlayo maya qaabka xitaa hees maarta adiga waxaa jira moogta waxa la yiraahdaa taqsiin oo kalante isku hadshay kala kale hal hayre waxa inuu heesa ma mooda horta Cabdi Qani heesano Umaro waa ma santahay wax weyn kulli had ma sameyn Ciraaqta aan ka sheekeyno kama bixin ama meesha ay fadhiisatay ka takacdo asna fadhiisto cudurka ku dhacay garbiya leyn xiro baraatu ka saqabtay marka furbajoog waxa subaxay ahayd waxaan suustaa Cabdullaahi hore uu sheegay barnaamijkan bareysama qaybta labaad waxa waa barnaamijyada runtii waa kooban yahay 20 daqiiqo wax la mid ah laakiin barnaamijyada ugu adag arrimaha dibadda looga hadlaa adiga magaalada Ciraaq iyo dalka Ciraaq waa qaad waxaan aan idhigayso waxba ma qaldina aaminsanay lahad waan dadaalayba marka loo fiiriyo xaaladda lagu jiray ma aan sharaxo idin qoran la aan sharaxo gantaalada waxa lagu riday Ciraaq lagu riday waxaan sheegayna waa Ciraaq warkii waxaan aaminsanay badbaado badan aan sameeyay maalinta ka badan laga qaban lahaa halkaan Ciraaq rabay waxay soo baxay Kim Jong Un kuuridu waqooyi gantaale ahwada ay soo baxay website kalan ka akhrinayay waxa ii soo baxay anoo Ciraaq raba waxa ii soo baxday kuuridu waqooyi waxaan sameeyay hadalka markaan jijiidayo waxaan raadinayaa halka uu igu qornaa warkan ku saabsan Ciraaq jijiiditaanka iyo Ciraaq markii meesha ku yimid waxba ma oo bal wax ka qabtay هاي مصلحة horta saaxiibkii Cabdi Qani kan uu ku jiraa mid kale oo ku baxsada Ilaahay uu sahli karaa laakiin kan uu ku jiraa Cabdi Qani Cabdi Qani ma qaado waa qaatay waa dhamaatay waa iska fasaxayna marka farsamayaqaanka farsamayaqaanka gacanta taagan haya waxaa baraha bulshada xilligan aad loogu faafinayaa muuqaal kalluun badan oo baddu soo ceerisay والله horta fiiri qalad kana soo jaray meeshan ogeyn farsamada ana soo jaray xaqiiqa ka hadlaa anoo guriga joogo waxaan dhigay idaacad ogaal markaas waxaan filaa ninka raba inuu weeraro ayaa hadda ku jira عمر ومحمد علي سيده فكفكنا معناها عبد القني انه الشاربه صار والله
كجذب كيغو عادي لكن بدي بلا سو عيرسي اوكي هي ولا شيكada telefoonka dhigsanay quraan fadhi marka ogaal meel waxa dhigaysanaysa telefoonka waa barnaamijka ogaal dhigsanay oo yaad ka baxay saac daqan u raaxisnaa ba waxa maqal ilaa soo aqrinay badii soo ceyris malay macna fajaan ka qaaday سمبورة ولا عقول سمبورة. صورة قلوا أنا سوي عرس. يا. عبد الغني دفاعي. دفاع لا ما أقرأ ماشي. مية. عرفت هذا كديبه. عرفت هذا كديبنا. سحيبك وحورة ملاك بدأ سوي عرس مقتى. ملاك بدو كجري بنان كسوي جوجا الأركي. مركب بدي سوي عرس. ما تصلح. يا عارين لا بيك. عارين. ما دارين تضبطي أنكار أما بال وحلمي ذا كهرة يعيد. برنامج شو قالوا هاسمح على الشيء. waxaan rabay inaan dhaho waxay badda inay soo caarisay malay ama kalluun marka hadda way soo kalluun soo caariyo hadda qarad ku jirtaa marka muhiimadu waxay tahay marka kalluunkan banaanka lagu arkay warkan keenay in la sheego maxaa keenay yaa banaanka keenay yaa banaanka badda soo burisay wala soo ciiri kalluunka badda la soo ciiri hadda qani horta cidna dhageysanaysa intana dhageysanaysa waxa ku jira dad naga cilmi iyo aqoon iyo maskax iyo garaad badan marka waxa la rabaa muugtahay warka lama rabo muugtahay in la isku celiyo waxa la rabaa muhiimadda in laga qaato waa naga aqoon badan yahay waa naga cilmi macna waa naga aftahansan yahay waa naga maskax badan yahay waa dan walba waa naga la sareeya marka inaan anaga falaarta ku jijiidana ma ana iska qira saacado عيرين يا عارين لا بيكرتها كل كلك ولا سو عيرين ولا سو عاري ولا بده ويصوت سو عاري ولا سو باطلك كويكو وفصحنا مرك ابو فرسمه يقانك هاي فرسمه يقان sidaan u bixi lahaynayaan qorshe u sameynay qorshiyaana kuwadayna muqadamaynana kuwa kale ku xigo sida saalax jeere iyo beed gadiid iyo ka shaqay doonaa sidaasaan hawsha ku wadi doonaa haddii ilaahay idmo ina ku wadlana aniga iyo ganacsatada cashuurta bixido gaadileed u badan waa isku sheegnay kaasi waxa uu ahaa yuusuf axmed hagar dabageed gudoomiyihii gobolka banaadir ee uu xilka qaadista ku sameeyay madaxweyne دبقات وعدها تن وعدها مر مر هاي واسدي انا مركه وفصحينا مادام واسدي هذه بعض ما سنت waxaan markii la cadeeyo marka in looxi aan nasiib u yeelan shamis nasiib u yeelatay maxamed iyo anigana maxamed wali iga horeeyay kaalinta saddexaad عمر inta badan hablaha nasiib u yeeshay maanta wiilashii adaa iga wada qaatay Mareen Cabdulla Xasan samiday Mareen dheer afadhido Mareen soo dhaw sanad guura wanaagsan sanad guura wanaagsan Mareen adiga Umar iyo dhamaan shaqaalaha idaacada kulmiye iyo dhamaan dhageystayaasha waxaan leeyahay si qaasan waa ku salaameena abadan salaameena dhageystayaasha maadaama unuga isku tiimnahay Mareen waxaad mugtahay samiday mugtahay Mareen dheer samida Mareen dheer ku noqoto marka adeeb Mareen la waa dadka Mareen talama ka wadan dheerta kareeb leeno dheerta kareeb Burhano calaamada markay garto ari aad warka idaacada dhex joogno Burhano barnaamijka markaan fureen waxaan ku dhahnaa Cumar Tiijar waxaana tiimka idaacada ugu dheer halkaas wax ka faham marka halkaas mar wax ka faham tiimka uu gaagaaw macna halkaas meeshaas mar waraa iga baxay waraa ma ha soo kaaga baxay ay Mareen qabsay intaas ku koob Mareen Cabdulla Xasan ay soo dhawow mudadii sanadkii ah ee 9 Febraayo laga joogo 2019 ilaa iyo 8 Febraayo ee sanadka 2020 ma aaminsantahay qaladaad ama hafashooyin aad gashay horta fashooyin way iska jiraan yar laakiin hadda wax qalad oo laga hayo inay jiraan ma aaminsan bilaash xafiiskayga soo waday waa tahay sheekayaan u baaqaynaa warbaahinta qaar waxaana la sheegay in ninkaani uu soo faruqmay waxaa laga yaabaa dhageystayaal fara badan iyo annaga qaarkeenba inaan la fahmin bal mar kale aan hawada saarano warbaahinta qaar waxaana la sheegay in ninkaani uu soo faruqmay ما يرتو عمره صفر هذا ما مقلي لكن دبك جرا وحو yahay waqada waxa ku qoreerto ilaa ninka la soo sheegay la micnaha amal ma soo hadda imsan kareem ba haday dhahdo muhiim hadda inaan dhaho waa ka gudubta muhiim ahan inaan dhaho laakiin waxa aaminsan khalad ka dhacay khalad kale isku gelin
qarka dhacay inuu yahay waa amisanta maya خالد ما بقى حواير وكو هفتي كليه سبحانك حد بالصفر مغيد صفر مقيم ايه وكسوا في عنت هذيك دافادي لا وشغايه ويا قرد كاس waa qalad cad oo loo wada jeedo waxaan soo xasuusinayaa 2019 isku furanka ragga iyo dumarka marka hay markan waxaan jeclaa bal markii labaad sanadka horta sanad cajiib oo ahay waana sanadkii meelo badan oo Soomaaliya ay inta soo bisil inta laga tagay waxyaabay igula yaabka badan waxaa kamid marinay in qof ay nool inta soo qabsaday wala shikar afka gistay عمران اي حلوه جماعه صالح مع العله الولا جير لهي horta ay gacmaha lagu malay horta qaladkan qalad khatar waay laakiin qalad wadareed waay falaqeen lagu sameeyay qalad guur wadareed ay maqal jirteen qalad wadareed waay aad mareen sid mudan in shamis iyo aniga barnaamij ku jirnaa oo aamusnay si u taraarxad horta waxa soo dhan xabsi khalifa ana gilisa madaxeeda Allah ka shubo tusaalahan waxay ahayd maalintii ugu dambeysay sanadka 2019 barnaamijka galab wanaagsan oo ahaa inta badan asxaabta galab wanaagsan qaban jirtay galabtaas inagu casuumtay macnaha aan galabkaas barnaamijka ma ku qorneen marayna ma ku qorneen iyadana casuumta shamisna ma ku qorneen xitaa burhana laakiin burhana ku qornaayeen way aad baad u maasay maagtaana naglisa marka madaxeeda Allah ka shubo waa dhamaatay marin aad u maasatay markaan waxaan soo dhaweynaynaa Cumar oo Cabdiwahaab aadan Cabdiwahaab soo dhawo waa maasantahay marinay adiyo guud ahaan shaqaalaha iyo sanad guro wanaagsan waan ku faraxsanahay adiga marti jar waa idin jeeda laakiin aniga qarad maadaama la iga hayn adiga marti jar waa waa idin jeeda Cumar waan ku sheego warkaaga leen u fadhiyaa aan ku sheego okay waa idin arkayaaba maya waa idin jeeda waa wax la yaqaan waa idin jeedaa maya laakiin ma aadan dhihin waan jeedaa tiri soo jeedaa waan jeedaa tiri soo jeesa marka way Cumar aad iyo maasantiin kulli aniga maadaama shaqaalaha radio kulmaan ka tarsanahay waan isku joogaa mooy horta qarad ligama hayo ha de maxaan ka wadaa de waa si aan bar saaxiib waxaan jecelahay way waa ku sina Cabdul waxaan jecelahay ninkan waa ninka ugu hafashada badan hadalka xaqiisa bal hadda haleela dhageysto markuu noo sheekayna laga qabto waayahay marka khaladaad hadda aan isleeyahay waa jiraan ama khaladaad gashay oo hadda diiwaan kugu jiro horta ma jiraan sanad kale hadii ahaan lahayd waa laga yaabay 18 oo kale laakiin sanadkan hadda ku jirno aan waxa waayo qalad suuq ma leeyahay way farsamayqaanka kulli maxkamadda noo fadhiya wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan loo yaqaanay oo ku xiran dawladda Soomaaliya ku xiran dawladda Soomaaliya hay soo dhaw ma horta ma qaadatay codka horta keegi ma waxaan jecelahay dhageystayaasha inay markhaati ka noqdaan codka aan wareysanayno iyo codkaas kale maxaa tiri codka keegi ma shariif ay noo saar bal wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan loo yaqaanay oo ku xiran dawladda Soomaaliya codkaasna asaga maahan naftiisu codkaasna Cumar hal kali ila ma muuqdeen oo loo yaqaanayda qalad sababta anigu uu nool yahay oo loo yaqaano asax wara mar kale laga soo qabtay arin baba fiirinay Cumar waxaa la yidhaahdaa haddii ay foolo timaado gudo qarsoomay hartay gudo qarsoomay hartay ma jirtaba aniga doorta Cumar saas ma dhihin haddii foolo timaado gudo qarsoomay hartay gudo qarsoomay hare ma jirabe ay okay way dabcan waa la heli karaa hadda khaladaadka taas kama taagana laakiin taan ka hadlo horta خرط أنا لما مركل الجرة ولو يقاني ذا سوان قرصنا وصحنك وأنولي هاي أنت شو مركل واحد فش إني رد معنا الهاي كأجد درنا عمره وحني دولد أحرنا أيان ربي لكن وحي رد أنا تقرر لو شيء كريم سبحان كاربا هرت إنكرماتك هو وحكب لو دعوت كيه معها هذا وحاق هرت عندك مقرات ها اوكي لكن وين بريئيس codkaaga waa qirata ma good nin fiican aad tahay khalad inaad gashay hadda waa qirsan tahay ma badna ma fiiri bakeri markiis isha wax lagu dhibciyo markiis waa isku qalad qaladku waa qirsan tahay haddii ka bax waa qirsan tahay aan isku dhibo
waa qirsantaa waa isku dhibaa ma dhibka xaka bix laakiin waa qirsantaa ma waxaan ka rabaa qaladka waa qirsantaa xoog waa qirsantaa sax horta maya horta midaan ka rabaa qaladka waa qirsantaa ha ana ka rabaa intaas waa sanadkii hore horta xasuustaa ninka horta barnaamijka kulankayga la qayb galaa cilada ugu weyn hadda kahor dhacdaan kaaga sheekeeya marka sanadka hore barnaamijku ila falanqeynayay ninkaan hadduu ila falanqeynayay dadka raba inaan xasuusiyo mogtahay aniga marka qodob oo yeman ku saabsanaa ninkaa u dhiiba eri caankuyo alyamin la dhahaa jir mogtahay qodobkaa u dhiibay ani marka ninkaan intuu hadlaayay waxaan aaday iqra oo farsamada ku jirta waxaan u sheegaya heesta dhextaalka barnaamijka nooca in noqon doonto iqra marka waa attentionkayga marka dareenkayga u baxay mogtahay farsamayaqaankaan la hadlaay ninkaan waxaa ku istaagay magaca wasiirka arrimaha dibadda yemen magaciisa ku istaagano ninkii magaciisa muxuu ahaa u dhahay dalka wasiirka arrimaha dibadda dalka yemen hebel alyemen la iska dhigo kulaha sheekadaas horta waa xaqiiqo runta lama dafar mogtahay inta badan haddaan khalad galan aan kulanka ku galo horta buraan ay geliyo aslan baan ku shaqaladaad isaga ay horseeda ninkaas weligay ma ilaawin Khalid al-Yemeni yalla magaciisa maalintii ilaa maanta marka waa runtii barnaamij qodob uu dhiibay waa soo sheegayo marka farsamayaqaanku wax uu sheegayay qadarta rabbi marka wixii si aan u soo wadeen dhaqaajin kar waay ninkii magaciisa meelka keenaday inuu soo fiiriyo raba isaguna uu maqan yahay wax allaale waxaan sheegtan garan waayay ay waxaan ku orid hebel al-Yemeni iska dhaafay hebel al-Yemeni barnaamij wala waxaan aad uga mahadcelinaa qaladka dambe soo u qaatay waana mahadsantaa intaasan kaaga koobayn adiga waxaa la soo gaaray gabagabadii barnaamijka qaybihii ugu dambeeyey waxaa la yidhi maxay Soomaalidu ku maamaadaa dheri ninkii u dhawaa maxaa la yidhi alafaha kala baxnaa lahaa deeftuun kala baxa ani adiga maryanay maanta dhan dadaan qufayne waa qoslayna maanta waana qoslayne agaasimaha horta gadaan aan dhiganaa asay barnaamijku soo xiraa isaga soo xiraa ani adiga markaan saaranta in nagula qoslo adigan ku hormariyo inaga maxaa lagu qoslaa anaga maanta dhan qosleen maan la shaqo cadaaladaba meesha ka bilaabata meeshaas maano Umar ani waxaan isiri marba hadii aad Umar barnaamijka la idin soo xulo inaad qabataan wax dhan la idin kugu soo xulo bilaad qalad inaad tihiin aniga sanadkii hadda la soo dhaafay si fiican aan u xasuustaa si fiican midaan isku qoslaa jirta ana isku qoslay waa tahay hada sheekay waa naga xisho waay Soomaali waa naga xisho waay adigan kugu bilaabo ha shaqaystay waay shaqaysay halkaasna waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Green askiisa koobno waa qaadana waa kiri waay macnaha carabka waxa iga gala muruq ma hadii jira carabka jaam see u dhahda hadda ana isku naxaybo waa kiri waay ana isku naxaybe kiri waay de waa qaatay ha naga soo koob bravo sasan karaba shamis camal ha ma qalad kala daa haysa balsooda qarax ka dhashay gaari lagu xiray waxyaabaha qarxa oo ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho عمرو وحير اسفانيو tusaalahan hadda kan waa ku rafto waa ku soo celiyo ugu dambeey waa saxay kii horena waa iga gashay carabka xogaa mur soo qornaa isa u tirway kale waa ku raftaa kuna waa ku celceli laakiin ugu dambeey waxa ugu celcelinaa ina barteeda keenamo laakiin dadka laakiin shamiso kala amal miyaani laakiin hadda qaladka labaadna waa qaad naag balaay ka dhacdina horta kan waa qaad ni waato balaay ka dhacday basheegisaabo dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamadan ay saarnaayeen gawaari hase ahaatee ay ku lug marayeen wadada isla markaan ciidamadu gaariga saarnaa Umar qaladaadka ugu dambeeyay horta laga qabto ahay ciidamada gaari ma saarneenbo أنا خلص أنا قلبي هذا معناه إدي شرحة موقتها إذا ما ذوي لجينا ين أيقو لجينا ين معناه وضد مرة بارتانا لسمينا وحشتا شبه الله ده الجوهر واي إذا ما أنا جاري دول صاري ولجينا ين أنا هذا اتخاذ مقارب دول صاري هذا أنا مركز لجي سياسي قلبي ما أنت ساقوا كأنه مرة بهذا قارب ما أنت إجف بدن بق أنت ساقا بدن أو هيلنا بكاسوس تيم نوان تيم نوان هاي ميل نوان هاي أنا جا أصهر مانو عمر هرت هذه مثلها قلوة على جاها أنا قاعد أنا حي مريس بربرتوه بالله وبتوه نبلك بعدها أنا أضو كل شقي أصدق قلوة هذا لا يقص صهري no ناس نادني ناقش قلوة no هذا كلسوني قبته كلسوني بحضن قبا شكي عمر تيجر مال إقصار هرت محابة شكي اللي قدونا ما قصنا صحافة كل حجرة أنا بربرتوه ما يملا ساي بالله أنت أنا جرا كجرا أنت كجرا سيقرر اللي يقص قبنا أنا مر حدي حتى قلب لجاواي وحسم إنسان أنا أبوه ها معناه
macalinkeena tahay inaad iska kay barajeysana rabtaa baadi ana qalad galay ugu yaraan aan niyada hala dhis bas hala farsamayaqaan ku yeeray waa ka doodi doonaa sheekay niyada dhis dagaal culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warramayaa hadda inuu ka socdo deegaanka afbarwaaqo ee gobolka Mudug. Faafahinta warkani waxaa soo diray Liban Cajiib Xaaji. markii aad tiri warka qofkaas intee aad inta ma baxday ma baxday yaa kale afar baa amaan xas ku hay amaan Umar waxaan ognahay inaa kamid tahay dadka micnaa saxaafadda muddo ku soo jiray wax qalad layguma haya dhahday haddana waa ujeeda inaad af okay yaa kale ani waxaan jecelahay hal mar inuu jumlada ka jawaabo intaas liiban saaraysay qofkii doona intuu buuxo soo qowsto soo laaban karay waa ina dhamaad ay عمر تيجر هرت ومد بدن واقش كودي هذه ناديس قش الله واحد أنت ساقو فيلم أنا waxaan ku darsan lahaa inta badan dadka waxay dheen muddo ku soo jirta saxaafadda taas macnaheedu miyaa in anaga dhan naga weyn tahay mise waxa waaye khibradda iyo waxbarashada meesha ku geyso waa ma santii marka hal mar ka jooday jawaabaha إذا ما لاحظوا حلوقي قناة سؤالها هل مرة على وذا ويديا أنا وين كأخلي بدي بوقتها أنت أصلا وأنت اللي كده وينها ورتا كنت مركز أدي شو عمل صحافة كوسه هري عمل كود دمبي قرض وقرض حدا بقول سنو حدا اللي صورنا في صحافة كجرتي قرض وكادعة أنا بورك اللي مدح كعشنا معنا سنة والبا أنا هالقرض الله نهاي لما ما تقص دحنا ما تقو بفهمت هذيك هل كحبنا من اللي جواي هل كحبنا اللي تاجرة سنة الله كانوا أنت برنامج كان أنا قلفت جي جوده هل حبنا اللي سوق بنا عبر واقع كي صار كي بنا كي أمسون جواريدا أمسون الحري معناه جواريدا الحري مش الربطة الحري أنا إرادو جواريدا الحري بابور تلا يا ها وجدت مالتس ولي بكلمان الله يقول قال كلمان ويا وكجود بينا وحرب هرتا صحافة خبرة خبرة العامة ولا قال غلط وأمريكا كواد مركز لبات حاجة ملها عيدة كعشنا معنا هل كان قرض إنه يلا فكتور برنامج كواكو شاقة ومركز الدحات ورن لبان عجيبة وركز صدري أفبر واقعا كريواي أفر إيجا إيمانيا مركز إرادة مركز إرادة أفر عن لايا أفر برواقنا ما لديه كرفك الرأي إيجا سو قليسو رأي عادة دم وريبواي مركز دم بواقع مس أفبر واقعنا يتارك واقعنا واقعي مركز كنا واقعي قصنا العام صبرك marka Allah musaw farsamayaqaan ku xidho aaw ninkii soo diray warka ana qosl laha saara xitaa qofka la dareemi kara marka intaas ay umayna qaradku waa dhacay midda kale qaradna ma ahana waa hafasho waa kari waaye ma ahana aniga qaradan kale ma waana qaatay laakiin dhageystayaasha waxa jirtay intaanan siinin qarad kale ma haysaa سوى أنا هلا باي ولقي هلا باللي يجري نمبر 1 بورتيريان كديلا هل كانوا دفاعنا وحنا كرر مركز دقيستياش وحنا سنة كور أوبرلان قاضي قراداتك إدهيدا إدهيدا رنتي وحبدان أجر كذي سهرت هذا كسر سمية وحبدان أجر أو حد كذي من أن سمينا إن أروردون ويران 8 دقيقة ضد إدهيا إدهدا وإدهدا وجودن بيسي عن قبطي ومقايد أما ريستورانت واي بلو سكاي اللي هذا إذا عاد كبا حيسا مركز الدوباي واحد دوباي مريم عبد الله يعني مريم عبد الله مستيجي جلي وداجنا أنا قاعد داجنا سي عندك وحربا أنا أفهم سي أنا قاعد مركز هذا أري دهايو حتى أنا جلايو أنا قال لي أري صدها إذا عد كلايدين مركز دقيسياش هالمرة أصارتن جلالة فرسني قال بيساعد wanaagsan boqolaal kalluun oo laga keenay badeena boqolaal kalluun hadii kalluunkaas lagu silaa marayna indhaha ku kala furmila walaala hal xaba ma gafteen jikin iyo barasto balalala ya inaan cunooyan buu malayaabe ana hada ma fahamtay aadi afaham maryan waxay tiri macnaha kalluun ay rabtay inay sheegto badii si qaab daran u sheegtay kalluunka waa u saxay marka waxa ay warsaas dheh hadana waxa ay kalluunkaas dil lagu siilahay indhaha ku kala furmay ana barostadii jikinka markaan sheegay inaan cunaa u malayna balalab markaan afka dhararkiga daayno waa fahamtay Soomaaliya ku fahamni qalad ka siran soo qaatay marka dhageystayaasha waqti maadaama aan u wayn mar haddii halkaas ku dhaafnay dhahidii qaladaadkeeda waxaan jeclahay markaan dhageystayaasha inaan u saarno qaar kamid ah wariyaasha oo aan hadda goobtana la joogin laakiin ma sii galgali doono waa si guud ma ugu gudbi doona hadii alla
tafaftira idaacadan ka bilaabeena Axmed Saciid baa ka wadaa lama kala xishoon doonaa Axmed Saciid aad ka wadaa ka dhufo aabbaha dhalay Caaisha Ilyaas oo isaga qudhiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay xukunka qaybihiisa kala duwan ee maxkamadaha Puntland ay ku soo rideen raggaasi kufsiga loo geystay Caaisha Ilyaas laga hadlay ragaa la kufsado keenaa dhiwaato qaladka sanadka ma la iska siiyay Axmed Saciid halkaasaan ku dhaafno qaladka labaad haddaad ka haysa Axmed Saciid warkeenana waxaa soo saaray Maxamed Cali Maxamed aynu ku bilowna wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Hiiraan Dhuusamareeb la soo qaaday xarunta gobolka Galgaduud ee ahayd Hiiraan la keenay beledweynaha la qaaday inta la geeyay Dhuusamareeb dadka Ismaaciil lagu bedelay tiim badan oo walaalahay soo asli inta soo dhaafimeen beledweynaha bala la geeyay inta soo dhaafimeen Axmed Saciid waayahay yaa kala nooysa waa masanta Cumrow sharciga koobka qaranka waxa soo gudbisay wasaaradda qaranka horta koobka sida loo dhaabo qalabheeda koobka xaleel waxa xasuustaa warkana si live u galay waduuro waxa warka ana akhrinay ana su'aashana weydiiyay marka wasaarad oo qaranka ana ma jirto laakiin qorsheynta qaranka uu rabay marka inta asagana ku dhaafeynaa Axmed Ibrahim waxaa ka mid noqon doona maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xaaladda Cabdirashiid Janan uu ku sugan yahay nolol iyo geeri waxa ka mid noqon doona waxa ka mid noqon doona nolol lama geeri ku sugan yahay macnaha ama nolol iyo geeri nolol iyo geeri bal markana dhageystayaasha u saarno waxaa ka mid noqon doona maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xaaladda Cabdirashiid Janan uu ku sugan yahay nolol iyo geeri dhiwaato Axmed barki inta mid kale saddexaad oo haysa afar sameeqan ka ku dhagan goobjooga la hadlay radio kulmiye balse codkiisa iyo magaciisa diiday in warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in qarxa biyomaalow ka dhacay uu haleelay gaari caasi ah oo saarnaa dad shacab isla markaana mariyay halka uu qarxa ka dhacay gaariga dad shacab saarnaa Cumar horta meesha maanta cilmi badan ka faa'iido koodhi haddana si wax u soo socdeen saaxiibkii Axmed wuxuu noo keenay gaari caasi oo la koraal arki jiray gaari caasi oo dad saaran meesha waa yaala dhiwaato asagana marka inta ayaan ku dhaafeynaa waxaan jecelahay farsameeyaqaanka cid kale uu hayo markaas inuu hadana ka ciyaaro daabtana waxaan ku falanqayn doonaa xabsiga ugu weyn ee dunida qofka ku noolaado waa cabsida iyo walwalka haddaba sidee looga hormarin sidee ka hor horumarinta naftaada sidee ayay kula tahay waa ku raftimaa daabtana waxaan ku falanqayn doonaa xabsiga ugu weyn ee dunida qofka ku noolaado waa cabsida iyo walwalka haddaba sidee looga hormarin sidee ka hor horumarinta naftaada sidee ayay kula tahay waa ku raftimaa barnaamijka intii la furay ilaa had saan u qosalka badan because intuu ku rafto waa asaga xiriir waa ku rafto aad u maasantaa Somaliland oo ku dhawaaqday guddi ka shaqeeya oo gurmashada dadka magaalada Beledweyne Somaliland oo ku dhawaaqday guddi ka shaqeynaya gurmashada dadka ku nool shabeellada dhexe ee ku fatahay webiga Shabeelle oo ka dhacay magaalada Jowhar بحفظت أنا واحد بدنا فهم marka dhageystayaasha say u fahmaan marka la u saarno Somaliland oo ku dhawaaqday guddi ka shaqeeya oo gurmashada dadka magaalada Beledweyne Somaliland oo ku dhawaaqday guddi ka shaqeynaya gurmashada dadka ku nool shabeellada dhexe ee ku fatahay webiga Shabeelle oo ka dhacay magaalada Jowhar isku ku celcelisay laakiin taqana toosay ahay waayahay waxaan jecelahay farxi intaas inaan ku dhaafno intaan ku dhaafay farsamaqaanka wali farta u taagantaa gargaarkan ayaa marka hore qorshuhu waxa uu ahaa in la geeyo degmada Afmayo waxaan maqli jiray heblow mayow muuta marwaan mayow oo kale marka afmayo farxiyahay waata intaan ku dhaafno farxiyo xuseen oo kamid ah wariyaasha radio kulmiye qaradaadka ay gashay nalama joogto intaasaan uga gudbaynaa markana ayaad noo haysaa farsamayaqaan
musharaxiinta madaxweyne ee galmudug dhinaca kale waxaa la sheegayaa in musharaxiin kale oo galmudug ka tirsan iyagana oo madaxweyne u tartamaya ay kulamo u socdaan waxaana ka mid ah jenaraal odowaa iyo mas-uuliyiin kale weli waxaa la sheegayaa inaanay natiijo ka soo bixin maxaa halkaas kaaga baxay saaxiibow ani horta waxaa iga baxay laba qof in laisku qalda meeshaan jenaraal odowaa uu yiri ninka jenaraal odowaa taliyihii moogta ciidanka oo xoogga musharaxiinta galmudugna kama mid ah marka waxaa is leeyahay aragtideeda laba mid ay noqon kartaa inuu ka waday jenaraal tuuryare oo nabad sugidda haysan jiray mar musharaxiintana ka mid ahaa ama cabdiraxmaan odowaa xataa oo asna musharaxiinta ka mid ahaa marka labadaas mid waa yahay xuseen intaas ayaanu ku dhaafayna isaguna waa mid ka mid ah barnaamij soo saarayaasha radio kulmiye gaar ahaan barnaamijka lagu yaqaano waa barnaamijka wareysiyada ee xog wareysi la yiraahdo weli cumar waxaan ku guda jirnaa qaladaadka saaxiibada naga maqan yaa markana u yeeraysaa maxamed axmed tuuryare jamaal khaashuqji saxufigii ahaa ee turkiga lagu dilay bishii Oktoobar sanadkii 2018 shirkadan oo magaceeda la yiraahdo Beverly Hills ayaa waxa ay sheegaysaa in intii ay socdeen baaritaan aad u fara badan oo ku saabsan qaabka loo dilay Maxamed bin Salmaan oo noqday mid intiisa badan baaritaankaas lagu halagalay dawladda Sacuudi Carabiga محمد بن سلمان محمد بن سلمان وانك لو ايديناي دلك كدنبي اسغي لا دلو يري روحنا والله سيغسنا ويا محمد احمد توريره وانا مقايا صاحبكين waa u xiisnay عادي هذا نسلامينا انا سيجار وسلامي ما دام صاحبك الى شقيوها waa ninka kaliya oo inuu isdifaacana sanad walba jeclaa jiray kubadda loo xana qaadan jiray sid mudan sanad kor meeshan si difaacay way markana waxaan jecelahay qof kale oo nagu qiimo badan taliyaha booliiska magaalada Katuna Ali Janga ayaa BBC-da u sheegay in ciidanku ay dhismaha weerareen kadib markii la soo sheegay hawlgal markaas laga shakiyay عبد الله عبيد وسلام الله سلام الله كمية قرب جوكت الصوماليات وسلامينا صاحبتي ما قرن جوك كده وسفر يرلي جرتا هورقل laga shakiyay meetre waxay howlgal laga shakiyay waa ku faraxsanaa barnaamijka qaladaadka wariyaashina sanadkan qayb ka tahay hay maxaa kale ma yaanu waxa maqli jiray moogta dad laga shakiyay iyo laakiin howlgal laga shakiyay maanta aan bartay cilmi badan meesha ka barooyaa bello haawo markii inta ayna ku dhaafayna yaaba يا سحرة قبل جوجنا وقتنا وون هاي اللي كان مخلب حدويا اسك سحرة كلمات هذا الكان كله حلو waxaan noo dhiman ma taqaanaa intii la isku soo duubay هذا الكان كله حلو ايسو برنامج كسحرة يا بحي برهان اقاسمها اوكي برنامج كسحرة يا بحي nin maanta oo dhan dadka ku qoslay marka waxaan qabaa aniga intii khalad maanta oo dhan baxaysay waxaas oo dhan maxaa si faafagin waxaan rawaa on rawaa dhiwaato meesha jirti hadda imaatay waaya balaarak dad badan soo istaagay wala khuslo dadka loo istaagay waqti aniga marka dhaca barnaamijka soo xira saacadan fiiri mugtahay ما تودن من السوحرين حد ما الحرا معبودكم كل حرين باي اسمرن بخلها واسل يسوق يابا برنامج كان waxa sugaysa qofkan soo socda برنامج يسوق يابا waa tay dhageystayaal saaxiibayaal dilaanta warkii gaamus maxkamada ana garsoore maya ana abukaate dadweynaha waa garsoore yaa way agaasin baraan way qofka la lis oo aniga baxanahay مالح تعيلي قبطان مرة هورو أنا قفكي لو هذا قفكي سدحالها وابعيلها وحاسو قيسي برهان درتي سنة أما بعيدا عمر والله شقائي قد عنا ناري كدرت هاي أمر أمل وحقيقة أنا أودك دكسنا برهان خبر أمل هذا نروح لك ساقارنا هاي فاطمة هذيك aniga kursiga xida waa celi waa iska istaagay على سحيفة ما بكون جرين برنامج كاد محاو فدس أقسمها شو يا ريت عفاف أنا مقطع horta habar farxiyo habareeyaha gabdhaha idacad jawaabayaasha waa mufti marka laga reebo Maryan iyo laba Maryan oo isku facna halkaas ay jooji waqti ay ugu socdo booja hay adigan yaa lagu qoslina islee gabdhaha marka gabdhaha waxaan jecelahay farsamo yaqaan ii dheele lacagta laga soo diray koonfur Afrika ee gaaraysa 9 milyan oo shilin oo lacagta Kenya in loo soo diray dad Soomaaliya iyadoo loo soo marsiiyay nin kamid ah kooxdii weerartay weerarkaasi
وقتنا وايد هاي دفاع جوجي ايزي اي وصح waa xafashada soo dhacday waa qarsana marka fahamsi dadka si waxa u rabay inaan dhaho iyadoo loo sameeyay mid kamid ah kooxdii weerarkaasi fulisay ama xatir marka kooxdii weerarkaasi kooxdii fulisay ama kooxdii weerartay weerarkaas weerarkii waa okay waa qaranay sasa karaba waqtiga in hay saas loogu soo koob hay farsamo qama iska dhaafnaa mayu yiri maya bishii la soo dhaafana nin oo laleeyahay oo Jimmy Sham magaciisa la yiraahdo ayaa 5 nin ay weerartay waxay ku weerareen oo la dhaceen Bruce ama Bruce qofsado Bruce-ka ama dadka lagu dhufto biraha waa Bruce-ka masaabirta marka alaab la sameeyo loo isticmaalo واتي محمد اسمه قالوا سوق ninka waa agaasimihi idaacada kulmiye markii laga jeexjeexin isaga aadina marina ku qeybay Umar agaasimaha qosolka loogu roonadaa hay horta ereyga marta waxa xasuustaa ninkan burisal luufta ereyga labaad ee rabay markaan ku dhufto wuxuu ahaa sheego aan ku dhufto oo aan dhinaca kale tusaale ama marka la dhaho laba shay la soo qaado waa sax marka fas ama waxa dadku u yaqaanana jira moogta minshaar marka buris ama dubbe arbano dubiyan karwaayay marka karwaayay waa soo qaban waa buris waa eri ingiriisi ama hafashada marka ogola wuxuu la degsanaa ku fahmo برهان ما لا فصحاي ما هذه وحيالله إيسار هذه صحيح وحيالله اللي فصحنا وارمات إيسار فرسمي قال codkaas aad maqlaysaan oo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Ducaale Beyle oo dabcan ka hadlayay magacan kabaad bilowgii barnaamijkan waa sheegay laakiin sheekay qayb ka tagaa jirta oo caadi ah magtahay markii inta naqusaysan la qaadanaa anaga inta caadiga ma qaadanayna Cabdirashiid Ducaale Beyle asaa ii farsameynaa waliba waxaa maalintaas waxa Cabdirashiid Janan oo xamar inta ka baxsaday oo la sheegay Kismaayo tagay wasiirka maaliyadda uu hadlay maalinta arrimaha daafinta wax ku ka hadlay waxaa sheegay Cabdirashiid Janan inuu Kismaayo tagay Nairobi ka sii aaday kadibna waxaan saaray codka Beyle markuu dhamaado waxaa iri kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Ducaale Beyle wasiirka maaliyadda aan raba mugta marka waxaa iri sheekay waa isfiirinay waxaa iri raala ahaada waa laga tagay laakiin waa sax laakiin waa raala waa laga tagay laakiin waa taafashada waa gashay ma yaanaga inta naqusaysan tawa laakiin hore midna raala gelin kamaan bixin waa ma is qarada ugu waa kan nadir burhan warka soo koob warka koobeena inta anaga naqusaysan soo qaadanayna raala gelintaada iyo soo dhawaantaada iyo qancinta macaamiishaada iyo dhageystayaashaada adiga ku qusaysan raala gelintaas waa qarada ugu waa kan macnaha qarad waa sama kuwa kala qaradan ogeynaa ma horta qarad waa kan qarada ugu waa bas waa ma shaata hay waa fasaxina sama armada ruux gacana la taaganaysa Umar waxaan rabaa burhaan oo role modelka aan ku dayin jirnay ahaa oo aad u yar aan dhageysan jiray inuu macnaha hafashadii aniga uu haday u galay asagan uu hadda sidaan u hadlay saddex umar weeyaba haye waa ka badan yihiin be iisuke in maadaama riyadiisii ay baabaaday halkaas uu ku guuldareysay sidaa darteedna uu go'aan ku gaaray inuu isdaldalo gabagabada barnaamijkan joognaa saaxiibada kala qayb qaatay tabin diyaarin farsamo ayaad maqli doontaan Cabdisaaq Xasan ayaa barnaamijka farsameynayay hay maxaad fahamteen أنا حان فاهم متقارع أنا هديكوا برنامج ما إنه أسمع برنامج كان بنوصل حرويون وسوق بجبينه ما كان معنا هذا كيف أنا وحان فاهمين برنامج كيو جبجباه أقسم حد يبلغ ما قد كنتان بلاو عيتها ما هيك ورن ما هي صاحبة إلى قيب قاتل تبني فرسمة نقل دونتان وحن كوضع عبد الوهاب آدم مقعيس أنا شيء الدونا فرسمة قال مقعيس أنا شيء الدونا ما الشيء نوري والشيء الدونا ومقل الدونا وعمرك ديده عدين كان أي دقيس هو لقوها يا عدين ولو أنا أقول مقطع ولقوها يا عدين waxaad rabtaa inaad sheegto magacyada tabinta iyo farsamada intii kala qayb qaadatay adiga laakiin waxa aad tiri ma taqaanaa maxaa tiri waxa iri saaxiibada igala qayb qaata barnaamijka tabin diyaar farsamo ayaad maqli doontaan okay isu aniga waxaan u aqaanay waxaad tabinta igala qayb qaatay hebel farsamada waxa ka qayb qaatay hebel waa waxaan aqaano
laakiin waxaad maqli doontaan heesaan soo wado barnaamij aan soo wado qodobada barnaamijka ay ku jiraan intaba way noqotaa isku siiqa ma aha أنا كل شيء عمره براسي خيس هاد برنامج كصاحبة التمني ديارنا إلى قيب قاتي وأمها العلنية بوسكي مها العلنتا وحقق شو ما وايها أنتم ولا جري واشيء ولا جري موي حد وايها أنتم وحن بلا وحن قلي ما شيء ما قاعد تقرب ما ودي مربب هدي oo diidata mid dab u saarin waxa xusid mudan daati shams inuu dhahay shams ma qiran doonto sababta wuxuu og yahay qof kaliya isku dagacad inuu asaga ama waxaan ka wadaano maamuud wixii ka yimaado dhaafsaas bogtaade cumrow gabagabada barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay maadaama aad iga yartahay barnaamijka inoo soo xir sida kaalmaha qaladaadka loo kala helana dhageystayaasha la wadaag waa yaraantaas waxaan jecelahay inaan ku dhawaaqo horta kaalimaha sida loo kala galay sababtoo ah waa sheeko aad u fiican muugta dad badan waxay sugayaan see loo kala galay yaa qaaday kaalinta koowaad yaa galay labaad yaa saddexaad galay oo kala rabaa muugta adiga marka in kaalimihii la sheegana waa lagama maarmaan sanadkan kaalinta koowaad waxaa gashay Shamis Xasan Haruun waxay qaadatay kubadda looxa ama alwaaxa ama kubadda mugdiga saarta dheh 7 qaraday aruursatay kaligeed 7 ku hogaaminaysaa kaalinta labaad waxaa galo abaalmarinta isagana hela ma taqaanaa maxamed cali maxamed oo isna aruursaday 6 qalab taasi 7 ay ahayd mugdi laakiin gabdhaha hogaaminaya kaana fiican ana la galiyo Soomaaliya kaalinta saddexaad waxaa soo fadhiistay saaxiibkii Cabdiqani mid aan xasuustaa Cumar 5 qalad waa san qaatay 5 qalad oo keena Soomaaliya waliba waxaan xasuustaa Cabdiqani booska Shamis inuu ciil qabay oo asaga baqaado xasuusana guud ahaan dhageystayaal waxaa intaa ku dhan barnaamijka qaladaadka wariyaasha ama hafashada oo sanadkiiba mar xilliga sanad guurada aad ka dhageysataan idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho inta aanu ku kulmi doona 9 Febraayo 2022 annagoo wada caafimaad qabna nabad qabna waxaan leenahay jaaw radio kulmiye